نقرب بني إسرائيل هاي السقالية سقاشة كنفد لي وحو تجينين ماركتانا الراهبة راهب هو أنك عابدك لكن فقيه ما هنا عابد بوها سؤال بويديو وحو كويري سقالية سقاشة نفنك دلي توبد مليه هي مركز ما توبد ملبور كاس أهل النار سجد النابو قرتك قوي بقول كقدري تقول بقول قف قبه أيها الدنيا بل إيه تلمام من عالمة مسألة باي لا من عالمة الله تلمام وفقيها نكيب ويمد عالمك وحكيري من عالمة متى هي كشيء سؤال هذا بقول جوابته والله قوه ليه يعني بقول نفض أيان دليل توبد ميان ليه هاي ها توبد والله ده هاي ويا توبده marka horeba waxa ka dhaxaysa adoonkii rabbigiiba ka dhaxaysa waxa ka dhaxaysa adoonkii ilaahay bay toobadu ka dhaxaysa laakiin toobada shuruud bay leedahay shuruudaasi maaha shuruudda shariicadeenu ay dhigtay waa sharcun liman qablana bay culimadu leeyihiin ummadihii naga horeeyay shariicadahoogii weeyaan ama ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam toobadoodu iyaka waa saddex shay weeyaan waa inuu qofku dembiga marka hore uu ka joogsadaa marka labaadna maaragtaane waa inuu ka dhex baxaa waa inuu ka qoomameeyaa marka saddexaadna maaragtaanay waa inuu ka dhex baxaa dib dambe ugu noqon waa inuu go'aan casiimo qaataa u yidhahda dib dambe anigu dembiga ugu noqon maayo ilaahay waa ka toobad keenay haddana waa ka dhex baxay go'aanna waxaan qaatay dib dambe inaanan ugu noqonin ilaahayna caza wajalla waan uga soo noqdo waan u toobad keenay laakiin ninkani reer bani israa'iil buu ahaa ninkii sheekhi wuxuu kula teliyey waddankan aad ku nooshahay waa waddan dhib badan oo dadkan aad ku dhex nooshahay dad wanaagsan maaha waa dad xun oo dagaalkaa ku badan oo aanada qabiilkaa ku badan oo dhiigdaadinta ayaa ku badan oo fasaadka ayaa ku badan oo dulmiga ayaa ku badan oo beenta ayaa ku badan oo fisqiga iyo fujuurka ayaa ku badan oo zinada iyo xumaanta ayaa ku badan marka waddankan adoo jooga toobadaadu ma istaagaysa buu ka yidhi ka dhexbax waddankaa kale waddanka heblaaye la yidhaayo halkaa ee dariskiinna dad wanaagsan oo ilaahay caabuda oo akhlaaq wanaagsan oo diin fiican oo dabeecad fiican oo dhib aan lahayn dadkaa u teg halkaa mooyaana toobadaada lagu aqbali ama halkan aad joogto way adag tahay buu ku yidhi qaraar markaa ninkii wuxuu qaatay inuu ka dhex baxo markaa dadkii jidka isagoo bartamihii maraya ayay geeridii ku timidee buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam deedna markaa malaa'igtii cadaabta iyo malaa'igtii naxariista ayaa isku qabatay ilaa innaka laftigeennu bani aadamka markuu qof inaga dhinto waanakan meydka maaragtaane nacaska u soo qaadayna ee kafanka u soo diyaarinayna ee qabriga u qodayna sidaas oo kale ayaa maaragtaane qofka bani aadamka marka naftu ay ka dhacdo ruuxdiisa hadduu ahluljanno yahayna malaa'ikatu raxma qaada buu nebigu oo kafan bay ku qaadaan iyo xanuud jannada ay ka soo qaadeen bay ku duuduubaan oo xagga samadiiyo kor bay ula baxaan hadduu qofku ahlunaar yahayna walciyaadu billaah malaa'ikatulcadaab baa intay qaadaan ayay dhulka hoose sijiin la yidhaah ee jahannamo u dhow ayay ku soo qoraan magaciisa buu rasuulku yidhi oo hoos baa loo qaadaa kaas malaa'igtii baa markaas ku qabatay labadii malagba way yimaadeen qolo walba way socotaa qolo waxay leedahay waa ahlunnaar 100 qof buu qabaa qolona waxay leedahay waa ahluljanna oo uu toobad keenay oo dembigii uu ku jiray uu ka toobad keenay markaasaa ilaahay jalla wacala waa raxiim waa raxmaan weeyaan waa sataar waa xaliim waa sabuur ilaahay waa dulqaad badane waa asture waa naxariis badane waa ka addoomihiisa u naxariista waa cafuw waa ka marka walba addoonka iska cafiya waa ghafuuro uu dhaafaa dembi kastood gasho haddaad ka soo noqoto toobadda shuruuddeedii aad la timaaddo ilaah dembiga uu kaa dhaafaya malag suurad aadamiya loo soo yeelay baa lagu yidhi tagoo halka uu ku socday iyo halka dembiga uu ku soo galay materi ta uu xaggeeda u dhowaado ayaa lagu darayaa dadkayga tii uu u socday ayaa ilaahay la hadlo wuxuu ku yidhi ila dhulka ilaahay baa leh dhulka ayaa leh ilaahay baa dhulkii la hadloo ku yidhi addoonkayga u dhowow taakay dheeraatay buu nebigu yidhi taako shib markaasaa malaa'ikatu raxma
ayaa meydkiis iyo ruuxdiisii qaatay sidaasuu ninkaas ku mutaystay maartaan ilaahay naxariistiisa meel xun haddaad joogtid diintaadu inaad ku sugnaataa way adag tahay dhulku ma xumo laakiin dadka jooga xumaanaya goormay xumaanayaan taariku salaagu hadduu bato dadkii way xumaadeen dadka beenta sheegaya hadday kuwa run sheegayaasha ka bataan dadkii way xumaadeen dadka fusqiga wada hadday kuwa khayrka wada ka bataan dadkii way xumaadeen dhul baa xun macnaha arladaa xun maaha dadka dul jooga ayaa dhulka markaa loo nisbaynaya dhulkaabaa wanaagsan muxuu ku wanaagsanaaday dadka joogaa wanaagsan abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu khilaafada islaamka markii loo dhiibay waa markuu nabigu adduunyada ka intiqaalay sallallahu alayhi wasallam wuxuuha bagaashluha dharka iyo badeecadu suuqa ku iibi jiraa leeyay alaabtiisii buu qaato degtuu saartay umar baa arkay ninkoo sii socda kale ya abi bakr ila ayna wuxuu yidhi waa shaqo tagaya oo taladii ummadoo dhan ba adiga madaxa laga saaray madhaleeli oo reerkayga ayaa ii bilin soo anu ka mas'uul maayo ilaahay weydiin maayo muslimiinta oo dhan baa looga dhigay mas'uul madax khaliifata rasuulillah weeyaan mas'uuliyadda uu qabtayna lacag baad ku qaadan meesha ma soo dhigan isagu innaka maanta ka warrama ninka markuu mas'uul laga dhigay dawladda ama xildhibaan loo dooranayo muxuu socdaa bay kula tahay muxuu socdaa waa lacag fiican heshid meelahana si fiican ha u jajabsatid lawa xildhibaankii baa la odhanaya oo loo bannayn meel walba iyagu sidaa ma ahayn mas'uuliyadda umay arkayn meesha ciyaalkooga ay ka biilinayaan mas'uuliyadda waxay u arkayeen waa xilligii ummadda nebiga loo khidmaynayay waa adeeg ummadeen ummadda u adeegayaan ilaahay ikhlaaska innakan hayna siiyo abu bakar uu yaabay war ciyaalkayga reerkaygina ma haleelaysid oo masaariiftoodii anaa ka mas'uule anna kaa shuuraynaynay adu noqo horta halkaa fadhiiso ma haleelaysid haddii toole waa la shuureeyey waxaa loo shuureeyey maadaamuu 4 reer uu lahaa in baytalmaalka laga siiya masaariif reerkiisa ku filan neef jeexi inuu u kala qaybiyo maalin walba reerkiisa hilibkaas iyo raashin ku filan labadii sano ee uu talada ummadda hayay iyo dhowrkii bilood tiisii markay timiday godka lagu riday abi bakr as-siddiq allaha raalli ka noqdee inankiisii cabdiraxmaan ibn abi bakr oo lacag sida ayaa baytalmaalkii yimiday cabdiraxmaan bin cawf oo ahaa maaliyadda ninkii hayay ayuu yidhi lacagtan baytalmaalka ku celi markaasuu yidhi adeer lacagta xaggeed ku waddaa jooji wuxuu yidhi aabba allaha u naxariistay ayaa igula dardaarmoo yidhi hadday taydii noqoto maanta wax adduunyaha maanta anigu dhul baan ku lahay magaalada madiina dhulkaa iibiya lacagta ka soo baxda dhulka labadii sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda aan hayay baytalmaalka lacag intaa la-eg baan ka qaadanoo masaariiftii weeyaane igaga celiya buu yidhi inta inii soo hadhan ininku dhaxal u qaybtama buu yidhi cabdiraxmaan bin cawf uu yaabay war maxaad leedahay aabbaa ku dardaarmay sidaas in lacagta lagu celiya halkee baytalmaalka oo siduu u qaatay waa masaariiftii ininku adu qorteen uu reerka siinayay labadii sannadood ayuu aabbahay qoranayay dhulkii uu lahaa markaan iibinayna waxau nagula dardaarmay lacagta in halkaygii lagaga celiyo baytalmaalka lagu celiyo cumar binu khadaab baa loo keenay cumar uu ooyey abi bakr as-siddiq oo uu yidhi abubakarow qabriga abubakar buu dul tegay cumar wuxuu yidhi madaxda adiga dabadaa imanaysa wallaahi waa daaliso ku gaadhi mayna buu ka yidhi waadna daalisay buu ka yidhi sidaan u leenahay abubakar ugu dayda waadna daalisay buu yidhi labadii saniya dhowrkii bilood uu talada ummadda hayay waa ninka yidhi igaga celiyay baytalmaalka intaas xukaamta zamankeenna ka warrama waxaasi maxaa keenay waa alla ka baq ilaahay bay ka cabsanayeen aakhiraday ku xisaabtamayeen markaasaa koogii madaxa ahaa xaqii ilaahayna waa ilaaliyey xuquuqdii bini aadankana saasuu iskaga ilaaliyey koogii faqiirka ahaa xaqii ilaahayna isna uu iska ilaaliyey xaqii dadkana uu iska ilaaliyey waa koogii faqiirka ahaa niman tuuristi oo cabbaan
meel xeeba ayay marayeen iska dalxiis bay haayeen nin dhallinyaraa oo markaa muslim oo xeebta ag jiifa bay arkeen doontii bay soo weeciyeen way u yimaadeen way kiciyeen maxaad meesha la jiiftaa wuxuu yidhi nin waxaan ahay beesheer waa kalluumayste khaydka xadhiggaa badda iigu jiro oo kalluunku marka malaygu markuu qabtana waan kacaabudo waan qabsadaa laba xabadood haddaan shaqaysto gurigaan iskaga noqdaa buu yidhi ma laba keliya ha laba xabadna waan iibiyaa oo masaariiftaan ka dhigannaa aniga ubadkaygu midna ciyaalka noolkooda ayaan uga dhigaayo basaskaan ayay u raacaan buu yidhi intaa markaan shaqaystana waan iska hoydaa buu yidhi way ka naxeen oo lacag bay iska ururiyeen baa laydhi lacagtii bay siiyeen wuxuu yidhi lacagtan maxaan ka dhigaa wuxuu ku yidhi waxay ku yidhaahdeen shabag baad iibsanaysaa shabag baddaad ku tuuranaysaa halkaad maalintii laba xabba keliya ka qabanaysay 20 baa laga yaabaa shabagga inay kuu soo gasho deedna magaaladaad kula noqon waad iibin lacagtii lacag ka badan baad samayn markaasuu yidhi kadibna waxaan in muddo ah sidaa ku shaqeeyo lacagta uruso markaasuu yidhi kadibna marka dambe doonni yar baad iibsanaysaa qoriyo oo badda gunteedaad ku dhaadhacaysaa badweyntaad tegaysaa halkaad 20 qabanaysay 100 baa laga yaabaa inaad soo qabato markaasuu yidhi kadibna waa laga magaalada caasimadda ayaad xaafadaha baraashintood ku yeelato meel walba malaygaad ku buuxinoo calikaluunla lagu odhan baa lagu yidhi markaasuu yidhi kadibna waddanka dhan baad u dhoofin doontaa kadibna waxaad la soo degi doontaa maraakiib warshaddii samaynaysay saaradiinka ee masnaca lahayd baad yaad soo iibsan doontaa deedna badweynta markabku xaggaana kalluunka baddu ka soo nuugi xagga dambena masnaci weeyaan uu shaqaynayaa adduunkao dhan baad u dhoofin doontaa markaasuu dee kadibna marka dambe nin waxaad noqonaysaa riisho milyondeera markaasuu dee kadibna aqal qasri oo weyn oo villaad dhisanoo si fiican baad u seexan bay ku yidhahdeen markaasuu yidhi hadda markaad ii timaadeen hurdaan iga kiciseen buu yidhi ma hurdadaa un baan intaasoo tacaba aad ii marinaysaan buu yidhi hadda markaad ii imanayseen sooma hurdin haa hurdo haddaan haystaa yahay waa ina iska socda buu ku yidhi waxaan ka wadaa dadka maanta innaku hadafku qofka muslimka hadduu hadafkiisa haysto u fiirso dadka muslimiinta kamalqabeenka cibaadaysanaya wallaahi cibaadadiisa uu ku raaxaysanaya ka faqiirka cibaadaysanaya faqrigiisa uu ku raaxaysanaya ka maaragtaan ee bugtaanka mid bugtaana baad arkaysaa oo buuqanaysaa oo lugiga gacan intay qallashay haddana ku leh alxamdu lilah waa nicmad buu ku leeyahay maxaa ninkani uu ilaahay ugu mahadinayaa baa layidhi waa iimaanka qalbigiisa ku jira ee macrifada ilaahay marka hadafka laynoo abuuray walaalayaal hadduu inaga lumo sidaa dadkaa kale maanta gaalada ee dalkan iyo caalamkaba aan arkayno siday u nool yihiin ayaa maaragtaan qofka bani aadamku cidhiidhi buu galaya cidhiidhi keliya maaha bal adduunyadiisuna way dayacan tahay aakhiradiisuna qofkaasi way dayacan tahay masaajidku nebigu soo galay sal alla alay wasalam xilli madiinat almunawara ay tahay dhaxan markaabuu nebigu ka soo baxay guriga caaisha deedna wuxuu arkay ninkii la odhan jiray rabiicata binu kacb alaslami waa saxaabi jaliila waa ahlu sufu ku jira ahlu sufu waxa weeyaan waa rag masjidka nebi maxamed gadaashiisa dambey degan yihiin magaalada madiina qareen iyo qaraabo kuma lah xataa aqalay galaan ma lah meelay wax ka cunaan ma laha nebigeenna calayhi salaatu wasalaam hadiyadda loo keenu nebigu wax ka siin jiray hadday sadaqad lala baxayana wuxuu jiray iyo ka siiya sadaqaddaas fadaalo iyo rabiica iyo abaa hurayre iyo ahlu sufa way badnaayeen 70 waa lagu sheegaa 90 bay culimmadu ku sheegaan qaar 200 bay ku sheegaan qaar 400 bay ku sheegaan marna tiradoodu way biiraysay oo 70 bay masjidka nebiga ku dhex fadhinayeen marna nebiga sal alla alay wasalam aryaaf almadiina magaalada madiina reeraha iyo tuulooyinka u dhowdhow ayuu nebigu u diri jiray odhan jiray dadka qur-aanka soo bara reerahaasi waa islaamayaanoo diintii bay jeclaadeen ordoo dhex fadhiisoo faatixada soo bara reerahaasi weliba islaamin islaamnimada gaarsiiya oo nebigu dacwadda u diri jiray iyaka raggani markaa ahlu sufay haayeen magaalada madiina qareen iyo qaraabo kumay lahayn ninkaa la odhan jiray rabiicata binu kacb alaslami oo nebi maxamed khaadimkiisa ahaa habeenkii markuu nebigu u soo kaco salaataleylka ayuu nebiga biyaha u keeni jiray biyaha uu ku weysaysanayo nebiga u soo qaadi jiray cadayguu nebigu u soo qaadi jiray markaa buu nebigu arkay rabiica oo dhaxmoonayo sudaale dhaxan calooshana cunta uguma jirto difaaca jirku uu yaraanayaa markuu qofku maalmo dhan 3 maalmood cunto markuu uu waayo difaaca jirkiisa uu yaraanayaa dhar dhaxanta ka celiyana may qabine gooyar baa haysanayeen dhinaca saas kugu qaban jireen sidaas u qarqaraya markaa buu nebigu ku yidhi rabiica labbayk yaa rasuul allah
waxaad doonto caawa ii sheega buu yidhi bal waxaad doonto sheego caawa war hadalka ayaa leh ma ahin wasiir ma ahin madaxweyne ma ahin maalqabeen intuu kuu ballan qaado ballanta kaaga baxaya maaha wasiir ballan intuu qaado ballanka kaaga baxaya maaha waa nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam kule rabiicow waxaad caawa jeceshahay ii sheega buu ka yidhi salli waxaad doonto sheego caawa markaa uu saxaabigii yaabay uu fikray as'aluka muraafaqataka fi ljanna buu ku yidhi inaan jannada rafiiq kula noqdo ilaahay weydii buuhi bas shakhsigan ku leh waxaad doonto sheego waa muxamed calayhi salaatu wasalaam waa sayidu waladi aadam calayhi salaam waxa ilaahay uu siiye duco la aqbalo mustajaabo ah hadduu nebigu yidhaahdo calayhi salatu salaam ilaahow buurtaa dahab ka dhig buurtaasi dahab bay noqonaysaa hadduu nebigu cantoobo ciida soo qaadu yidhahdo ilaahow ciidda dahab iiga dhig ilaahay dahab buu ka dhigi karaa laanna nebi maxamed ducadiisu waa mustajaabo weeyaan waa imaamul acdam weeyaan khalqiga ilaahay abuuray oo dheebaka qiyaama imanaya waa kay shafaacaddiisa ay hoos iman doonaana ducadiisa loo aqbali doono kaabaa kula rabiica waxaad doonto caawa ii sheeg markaa buu rabiica yidhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna aqal uu u baahan yahay ma xasuusan reer uu u baahan yahay ma xasuusan dhar uu u baahan yahay ma xasuusan cuntuu u baahan yahay ma xasuusan nolol fiican uu ku nool aduu doonaya wixii oo dhan uu iloobay waayo fursaddan buu gartay inayna ku soo noqonin hadday maanta dhaafto waama soo noqoto fursa saciida fursa tayiba tira carabtu fursa laa tudayac dee lagaa idhahda maanta madaxweynaha waddankana maanta ku qaabilaya kaalay maxaad diyaarsan lahayd balsheeg shayga adiga agtaada kuugu qiimo badan yaad u sheeganaysaa sooma boos baad u baahan tahay magaalada santarkeega waliba maantaan kula kulmay adaa ii yeedhee madaxweyne booskaasaan u baahnay haysiiya saxaabigan radia allaahu canhu shakhsigan la hadlaya qadarkiisuu garanayaa makaanadiisuu garanayaa waxa saxaabigan u kala cad welibana noloshan adduunyada iyo nolosha aakhira farqiga u dhexeeya ayuu garanayaa jannada adduunyada iyo jannada aakhira farqiga u dhexeeya buu garanayaa deedna markaasuu yidhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna yaa rasuul allah wax kale ma rabi aniguye inaan adiga jannada kugu dhex arko oon rafiiq kula noqdo ilaahay intaa ii weydii markaa buu nebigu ku yidhi aw hayra daalika tu aan taa ahayn oo kalena sheega buu nebigu ka yidhi taa horta heshay tu kale ku darsa weeyaan aw hayra daalika taa tu aan ahayna huwa daaka buuri muraad kale anigu ma lihi muraadkaygu waaba intaasuu buuli bas daki buu ahaa saxaabigaas adkiyaa inankoo dad maanta iska caqligoogu foraro baa lagu odhan doonaa ninkan waa nin caaqilo waa nin khabiira weeya oo siyaasi xeel dheer oo aragti dheero kontonka sanee soo socda isbeddelka geeska afriku ka faalloodaa salaad fajarka ma tukada mayma tukada baa lagu odhan muxuu ku yahay markaa khabiir nolosha dambe ee runta ma ku xisaabtamaa may maxuu ku yahay khabiir markaa madarasad xifdi alqur'aana intuu dhisay 200 oo arday intuu ku soo xeraystay 20 macallin intuu u dhiibay ma yidhi ardayda xufaad alqur'aan iyo culamo iga soo saara deedna ilaa qiyaamaha ajirkoogu aniga hay socdee kaasaa khabiir oo xeel dheer oo khabiir xeel dheera muxuu ka faalloo geeska afrika ka galay isaga adkiyaa bay saxaabatu maxamed ay ahayn adkiyaa caqli badan oo caqligoogu soo jeeda bay ahayn adkiyaa markaa buu nebigu ku yidhi aw hayra daalika taatu aan ahayn oo kale may buuri tu kale ma qabo baanu taun ma qaba bas taasaan leehay muraadkeygu waa intaasu inaan jannada kugu arka bas oo rafiiq la noqdo faacinnii calaa nafsika bikasrati sujuud baa nebigu yuri sal alla alay wasalam waa hagaaga sujuudda faraha badan la adiguna igu soo caawi sujuudda hadday badi sujuudda nebigaa janno ii bishaareeyey ha ku degmine
oo cibaadada iyo taacadda gacmaha ka laabanine sujuudda adiguna soo badi buu nebigu ku yidhi warkii jannada loo bishaareeyey haddii uu nebi maxamed uu leeyahay sujuudda soo badso innagana marka innagana xaalkeenna maxaad u malaynaysaa markaa soo inaan oyno maaha soo inaan alla ka cabsiga sii badinno maaha ola maalin meel ku qayilaysa ayaan annagoo jamaacaan jawlad baan ku qaadnay asalaamu calaykum calaykum assalaam mid baa hanala hadlina waan aamusay marka waan dhegaysta haye sheekhow hanala hadlin waxba ha noo sheegin ilaaha xaggiisa aad noogu yeedhayso annaga waxba nama siin buu yidhi hadalkaa ka warrama ayuu wax siiyey reer galbeedku ilaahay wax siiyey dadka cadcad waxba annaka ilaahay nama siin buu yidhi dadkaasaa wax la siiyey markaasaan ku yidhi ma waxaad raadinaysaa maxkamad markaa ilaahay aad soo saarto soo saar ma hadda ilaahay buu rabaa inuu dacweeyo sooma kuwii kalaa markaa ile dadku isku mid maaha iskuma jiraan inuuba khayrka u soo go'dee waraa waxay ku adu naga aamus annakana la hadla annakaa dhegaysanayna khayrkeeda markaasaa yuuti alxikmata man yashaa waman yuuta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira jamacaadku markaad socoteed ummadda dhex socoto waxaad noqonaysaa tabiib sida ninka dhakhtarkaa qof walba meesha xanuuniisuu yaqaanaa daawada ku munaasibkana uu qoraa ilaahay wuxuuna soo dhex mariyey hadal kuwii kale iska daayay isagii uu ku dawoobay waxaa looga bilaabay nicamta ilaahay bini aadankan jidhkooga uu ku abuuray wa fii anfusikum afalaa tubsiruun aad baa marka loogu xeel dheeraaday araggii yaa nasiy allah maqalka yaa nasiy allah halaadkan ilaahay kugu rakeeyo balaag ishan oo keliya haddii lagaa yidhahda waxa waddanka lacagtaaloo dhan baa keligaa lagu siinaya ilah lagaa saaro ma yeli labada indhoodna waxa adduunka yalloo dhan maqalkii kadaalika ishu halka maqalku uu gala ma gali karta iyadu sanku booska uu gala maqalku ma gali karo cunto keliya qofku cunayaa ka soo qaad halkaa baa la dhigo cuntadii ishaa marka horraysaba eegaysa isu maxay sheegaysaa haddii cuntadaa daqsi dul socda ka warramo daqsi dul yaallo ama barambara dul fadhido ishaa sheegaysa gacantu ma sheegayso ishaa sheegaysona waxaa ka qaada dee waa maxay cuntada naga qaada ayib cuntadii markii aragtay ishii way fiican tahay gacantuu geliye ka soo qaad gacantu waxay sheegaysaa cuntadani ma kulayl baa mise waa dirrimaad mise waa qabow gacantaa sheegaysa haddii cuntadani afka ay gubi lahayd gubayso gacantaa markiiba sheegaysa wuxuu leeyahy qofku waa kulayl cuntadu yar qaboojiya cuntadii waa normaal kulaylna maaha qabowna maaha waa beeldhaxaad gacantii way soo qaaday halkaa marka cuntadu ay marayso yaa sheegaya haddana sanku wuxuu sheegayaa cuntadani urtii buu sheegayaa may udgoon tahay mise way bedelantay oo carfigaygii way ka tegey meesha hadday uraysa ka warran afka loo dhiibayaa markaa afka waxaa qaadanaya shaqadiisii carabku wuxuu dhadhaminayaa ma qaraar baa ma macaan baa ma dhanaan baa bal xubin kastoo jidhka bini aadamka qiimahay leedahay eeg yaa ku siiye gudaha halkaa cuntadu markay gaadha haddana warshad kale halkan ku rakibanoo ilaahay uu ku rakibay oo waxaad halkaa marisoo dhan kala saaraysa waxaa cajiiba magnad baa ilaahay carabkeena uu ka dhigay magnad abuu qabtaa tin hal tin oo tima ah ma gaadha lagu leeyahay caloosha bini aadamka carabkaa soo tuura markiiba carabkaa waxa uu sheegayaa biyo intee lag baa carabka ku jira jamaaca beri waxay arkeen nin caagad 5 litir la yuusitaa markuu yarka joogaba uu ka badaa markuu yar joogaba uu ka badaa 5 litir waa la weydiiyey maxaa ku helay say wax u jiraan wixii carabka ay qallalay buu carabkaygii maadadii biyaha samaynaysay male buu haddaan 5 litir ee biyahan gacanta ku sidani waayo hunguriga engegay oo dhimanaya buu inagu nicmadda ma qadarin maalina nicmadda maqalka ayaa yaqaana qofka maqalku ka maqan yahay baa yaqaana nicmadda aragga ayaa yaqaana qofka araggu ka maqan yahay baa yaqaana nicmadda hadalka ayaa yaqaana qofka hadalku ka maqan yahay baa yaqaana nicmadda hurdada ayaa yaqaana qofka habeenkii aanan jiifan baa yaqaana
نعمة أوبتك يا يقانا لك بلا أوبتك يا يقانا من يقدر هذه النعمة؟ لأن أسلوب عين كاسا مركا رقي مجلس كجات كقيلية اللي قولها الله نكي وانو فيرسدا نكي مدحو سدا وروحا markaan hadalka u dhameeyeen iskaga tagnay ayuu yiri naga daba hadlo sheekho hadalka hadda aan ku hadlay shaydaan baa iga keenay soo duceeyay shaydaan baa nahno ma khayr ba ku jira fitradii iimaaniga qalbigiisa ku jirta markuu macsiyo ku dhaco qofka muuminku marka daba uu ka calaalaya limaada laana fitradii islaamnimada qalbigiisa ku jirta qofka إن علماء كمذا عالم مالين مثلا قصة عجيب ونوشك يوحيدي عبد القادر جيلاني الله أولنا حريسته شيخ عالم الرباني يبوها أنت رنوا كأقام سقوير أقوم بوها هو يدي بكرستي لأن مركب العق في عنتي جيبه وردي سفر مقالة والسعودة بيقدرتي كتري أرضوا مقالة قالوا مساجد قالوا علم الحلقات كعلماء علم كبريسا أرادوا علمك علماء كالصبر وسفر كالرعب يكتري سفر كي والله السعودي أيا نمن موريانا أيا نحذا أقلي بالليل وهبين مدو وقرعدا دادكي مركي أركي توقتيني قعنت وقود عين أفضل بوحو هايستمو مركا قرسانيا يركي يرانيكو وريو توقي قبتبا ويديو كويري وريا ويل كي يرو هذوكو محاد وضاتا وحالي وحو العق وطيبو بنانك صودقو شيقي بالليل مركا سويابي العق انتا لك بعد وضاتا ها آوي وابطن وكقاضي وكنحي مركا وحول محاد كدغيسا لعقتن هويدي با سو سيسو مغالدا السعوديه waxaan u socdaa طالب العلم baanahay cilmigayna soo barta ayaan doonaya lacagtana marka waa masaariiftan cunayay weeyaan inta oo sanadood marka buu adeer maxaad iskaga sheegtay buu maxaad u sheegtay mad qarsatidaa buu ku yiri dadku waa ku wada qarsanayeen wuxuu hooyaday baa igu tiri waliga been ha sheegin hadaad been low aad noqotaa ilaahayna uu ku nicib binaadamkuna way ku nacayaan عجيب gacanta intuu qabtay ayuu u geeyay baa leeyay ninkii dhanaaye tuugta ugu sareeyay bal ilmaha yar wuxuu leeyahay dhageyso lacagta inta laagna u wataa oo muxuu yiri lacagta inta laag buu wataa uu sheegay maxaad u sheegtay baa ku niri wuxuu yiri hooyay igu tiri been ha sheegin hadaad been la noqotaa dadkuna way ku nacayaan ilaahayna uu ku nici waana run been alaha ilaahay baa nacab been alaha dadkoo dhan baa nacab iska daa muslimiinta been alaha gaalada nacab tuugta ugu weynaa uu ooyay baa leeyahay sida ilmo yar buu u baroortay markaas lagu soo ururay maxaa loo ooyday wuxuu yiri hooyaday haday asaga hooyadii kala la mid noqon lahayd aniguna tuug ma noqdeen buu yiri ee aniga tarbiyadii hore iga xumaatay waxa halka aan ka fahmaya yarka hooyadii waa murabbiyad ilmaha yar hadalkii hooyadii buu fuliyay wuxuu haysto dhammo banaanka inoo keenay inaguna amarkii ilaahay intoo jabinay oo tuug noqono umada aan dhacayno ayaan halka u fadhinaaye waxa iga ballana maanta laga bilaabo ciidanba dhici maayo yarka lacagtiisana u celiya dadkana sii daaya aniguna masaydkan gale waan toobadkeena salaamo buu halkii buu kaga dhaqaaqay ninkii tarbiyada hooyadu waxbay badashaayo ogow hooyoy haddaad hagaagtidna ubadka inoo hagaagi ubadkuna waa mustaqbalka diineed mustaqbalka dadeed mustaqbalka dalkeena weeyaan hadday noo hagaagaan ubadku waxay ka dhigan tahay dalka ay noo hagaagay hadday dumarku inaga baanaadaan oo haweenku ay baanaadaan waxay ka dhigan tahay dugsigii hore ayaa inaga xumaaday laana ilmuhuna uu xumaani ilmuhu hadduu naga xumaadana mustaqbalkeena dambe uu baabeeyo ogaada markaas marka walaashayda muslimada iyo hooyadayda muslimada waxaan naftaydan ugu nasteexayn inakan inagu nasteexaynaya inaan shaqadeennii aan ku noqonno dhadhaar walba halkii la dhigay buu qiimo ku leeyahay raggana mas-uuliyad baa saaran haweenkana mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyadda haweenka saaran waxa weeyaan inay gabadhu noqoto gabadh waqarna fii buyuutikunna ku shaqaynaysa gabadh hadday gurigeeda ka baxaysana iyadoo jilbaab wadata aqaladeeda ka baxaysa bannaanka uma baxaysa ilaa iyadoo jilbaab wadata mooyaane xishoodku fiicana haweenkana ku sii fiicana hadday inantu guriga ay ka baxda baa la yidhi inantaasi kuma noole ogow inantu waa inay aqalka dhex fadhidaa hooyaduna waa inay aqalkeeda fadhidaa
وأقل كفردك محل وفردنا يا حكمة دمرك أقل كوفردنا يا وتربية أولاد أوه الرسول صحابة فقراء المهاجرين تعيا النبي قوي بعد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أغنيدي مسلمين تبعد هذه أغنيدي مسلمين تا وين نقبدي الجنة يكا نقطة درجات كي ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم درجات كي كريي يا النعيم كي مقيم كي جوكتا دا هاي الدائم كاها إلى نعمة دا أدويد الجوكتا ماها نعمة دا أدويد الجوكتا ماها وين ماتا لكن نعمة دا آخرة والجوكتا كهذا ماني ميسو دل يرنمة دا أدويد وين ماتا لكن دل يرنمة دا آخرة كهذا ماني ميسو جنة أدوية وين ما تهدار جنة سمستادون كدوش هذا وين ما هذا كذا من عميدا كابابي لكن جنة آخرة ما نيسو نلاش أدوية دمشق كذا بيسا نلاش آخرنا نلال أبدي وارثان أبدي كذا بيا عافمات كأدوية حنون بقدال سعدا لكن عافمات كجنة مؤمن كاللبوسيو ولقي حنون كذا بين مايو دل يرمى آخرة ما جابوا بيسيدو صحابة مركا وحيد هذين لمنك ولا لها أي أغنية مع القبائل دي جنة دي درجات كي أيك إنه بدي ونجاه له إنه هو الرجيم مقيم كين أيك قاتل نعمة دي دائم كهيد مركب النبي يقول استدل إني بدي بليش يجا وحيد هذا حاجة صلاة وانقسم النهي حاجة صوم كان وانقسم النهي لكن وحي نقول في النبي الله ما دام الدقالية العقل إليهين حج كي بنتجيان أنكم ما تجي كرينه صدقة دي بيلبح يا صدقة الله بحي كريمينه زكاة دي بيحين يا زكاة ما بحين كرينه عتق الرقبة الضوامها انت سوق تاني سوي بيان أي أورنا الله درتي ما كوح وريه مقالة قالوا اسكو حوكسو حين تاسو النبي نقول دافين بين هذا النبي الله سيروا قالنا أنكم مركان فقير كوبو يكا كغني وحو كلا ترتمى آخر إنه كاهرين فقير كان الزمن كنا كغني انتو صلاو يقبوا لي هاي وحا يستعدقوا من هاي ستي ده اسكو أركت من المركز أما فقير كان الزمن كان وحا وكود دالا يا حولها أدواد هاي ستعينوا كان قاضي سوق كان قاضي فقير كالزمن كوبو غني حل قاعد جوجا وحو كلا ترتمى سدين ما ركتاني آخر لقنا نقعد آخر إنه قبل ديانه فقر قاعدون قسنا كويس وحوم أركاي لكن وحو كفي كان يعني كان فقيركم في زمن النبي مسلم كغني سدين وآخر هذا كاجد درجات سرية سدين مركا أوجا لو كان درجة سرينا يا والزكاة دي بودير يحي وصدقة دي بودير يحي وعتق الرقبة الضمها الحرين يبودير يحي وجهاد كي بودير يحي وحج كي بودير يحي وعمرة دي بودير يحي وإحسان كلا بدف ونك غني وسمين كرا مساجد بودسيا مدارس مفريا معلمين القرآن كم بشار سينيا صدقات بولا بحيا أيتامته وحسينيا إلا إنك محسن كإلهي نقاله سا وما في عنه مريي سنة درجات سنة قاري مايو نعم المال الصالح للرجل صالح مركب النبي كل الرجل فقراء مهاجرين وحول عمل بني شيء كوا إنك حريانا أتكو قادان كوا إنك دمبيانا أتكا بدسان أحد نقفل بدنا آخر إنه جرين إنه يمادو إلا مد سمع يسدا أت سمعسان أما كدر يوم نقدر يوم ويانه ويه نوشك النبي الله صلاة مركات كبحدان بو نبي قولي سبحان الله صدح صد جرب الأوران إنسان الحمد لله صدح صد جرب الأوران إنسان الله أكبر صدح صد جرب الأوران إنسان انتي بمركا انتين مقلان بين لم نقدان ولكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم علمك العلوش اللي ما حيسنين علمك مسكحة اللي ما حيسنين علمك والله عمل فلجري عمل فلك عمل علمك اللي يلين جري كدمنا علمك أمد الله قارسين جري وصحابته وحل لقوا تربية دي بلغ ما أنزل إليك من ربك الذين يبلغون رسالات الله نبي محمد باس شغديس أيتهي إنه الرسالة إلهي ودتك قارسيو أمد النبي محمد وحل لقوا أماني تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر دتك آيات هناك فرس الحماها أتكرر بيسان صحابة وحل لقوا تربية دي وحي نبي محمد أي كم مغلان إنه مركبا يكون أمده يوصي الشيغان وحي كل شقين أيام بلغوا عني ولو آية نحن نقطع كي مغلو أمده قالسي قارسي لأن حديث كي بقاري رقي كلام مركبا فقراء المهاجرين
ayagoo aad u murugoonaya ayay soo noqdeen yaa rasuul allah xadiidkii aad noo sheegtay way maqleen adkaartii waynala sameeyeen laakiin waxayna dheer yihiin weli xaggii dhaqaalahayna dheer yihiin markaa buu nebigu yidhi dalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa dalika fadlullaahi qofka haddii ilaahay uu dhaqaalo uu siiyey oo uu dhaqaalihiisii meel wanaagsan uu ku bixinaayo waa nicmad waa fadli dheeraad oo ilaahay kuu doonuu siiyaa buu nebigu ku yidhi mid baa maalin yidhi inankiisii buu ku yidhi aabbo hooyadaa iyo walaalaha dhammaan waxay leeyihiin been badan waa been badane ninkani been badan marka dhanba ku wareerise beenta iska daa markaasuu hayaa waaya dib dambe been u sheegi maayo waa ku yar hooyadiibuu been u sheegaa walaalihiibuu been u sheegaa reerka dhanba been buu ku iskool ma tago meel been uun odaygii baa markaa odayaal saaxiibbadii u yimiday yara u arko wuxuu yidhi kolley odayaashan aabbahay bay u socdaane aabbana waa kii raba inuu sii seexdee bal u yar markaasuu aabbo odaygii hebel baa albaabka ku soo dhowe kolley aday kuu socdaane maxaa uu hurdaa ku dhabiidi macallinku markaa waayo macallinka xaafadda waayo waa aabbaha kii yaraa baa yidhi bal filimku dhigay aabbahay ruwaayad buu samaynaya guud anigiina been daa buu leeyahay isagiina been buu ummadda kula dhaqmayaa buu mujtamaca noocaasa ka warran mujtamac hagaagsan waxaan ku keeni karnaa adigu hagaag aabbuhu ha hagaago hooyadu ha hagaagto hadday labadaa hagaagaan bay culimmadu leeyihiin ilaahay caza wajalla waa qaadir in ubadka ku wada hagaajiyo hadduu mid xumaadana laa baas farahumay siman yihiin ma yihiin inay boqolkiiba boqol ubadkaagu ku wada toosaan ha ku talagelin laanna sunnada ilaahay baa caalamka socota sunnada ilaahay waa maxay inay ina fiicnaato ina ayna fiicnaan in dabeecad fiicnaato ina dabeecad liidato in dhaqaale hesho ina faqriya sabool ku noolaato in caafimaad qabto ina ay bukooto mid adiga kuu khidmeeyo midna adigu aad koriso haysid 40 jir ilaa imika waxaa la helayaa dhulkeenna kule hooyada iyo aabbahay xaq baa kule xaqayga iga siiya oo xaqaad ku leedahay muxuu yahay dee reer baan guursaday biilka ha lay siiyo war ma adaa biil lagu siin mise adaa biil dadka siin lahaa waa maskaxda dhallinyaradeenna qaarkood ku fikiraysa maanta 40 jir baad arkaysaa 30 jir ilaa imika ka dhaadhacsan tahay hooyada iyo aabbahay xaq baa kule xaqayga aniga hay siiyaan oo masaariif hay qoraan mujtamac wanaagsan baa la rabaa inaan samayno seen ku samaynaynaa waa inaan diin ka shaqaynaa aayaddan qur-aankaa la rabaa in lagu dhaqmo aladiina in makkannaahum fi lardi aqaamuu asalaata wa aatuu azakaata wa amaruu bilmacruufi wa nahaw cani ilmunkar walilaahi caaqibatu lumuur waa aayadda culammadu ay yidhaahdaan xataa dowlad islaama oo shareecadda islaamka dabaqaysa hadday dhalatay timaadana diinta in laga shaqeeyo laga tegi maayo waa la wada shaqada diinta amr bilmacruuf dacwadda la dayni maayo bay ku leeyihin xataa dowla islaamiya hadday timaado binasi hadi laaya bari annagoo khaarijiina baa nin odayaan ziyaaranay meel fog baan ku ziyaaranay markaas xaggeed ka timaadeen oo waddankii baan ka imanayo waa dhulkaa gaalada markaas masaajidkaan joognaa na marina raaco waa 40 kilomitir baan u soconna qiyaasi ama in ka badan markaasuu maskiidka anugu axaddi unbaa taga axaddi war axadda kaniisadaa la tagaay maskiidku kaniisad maaha masaajidka maalin walba 5 jeer baa la tagaa wuxuu yidhi warkaa ma hayee laakiin anugu axaddii baan tagaa axaddii inta kalama bahleedoo jaamacad baan dhigtaa buuri waa nin dhowr iyo 60 jir ah markaasaan ku nidhi jaamacad waxaan nahay xaggii waddankii baan ka imanay odayaal baa nala socda inaad noo timaadid marti baan nahay meel dheer baan kaaga imanay markuu waddankii baan ka imanay uu maqlay ayuuna xiiseeyey markaasuu yidhi waa yahay namarsha uuna soo raacay markaas jaamacaddiibuu u yimiday uu la sheekaystay waa la iswaraystay waa la isgartay nin odayoo jaamacadda la socday bay isgarteen markaasuu yidhi waa waddankii dagaal baa ka dhacay oo waa la soo qaxay oo dhulkanaan ku soo qaxnay oo halkan oo caynkaasoo ciyaalkiina jaamacaday dhigtaano oo adigu maxaad qabataa buu ku yidhi wuxuu aniguna jaamacad baan iska dhigtaa buu yidhi ila dhulkan shaqo ma jirto shaqo lagu diran maaye
da'dii shaqadana waan dhaafay oo waa 65 jir buu hadaadiisu wuxuu wadankii intii la joogayba nin jaamici aad ahayde oo qoni kuma dhinayne halkan markaa timid maxaad barataa baa lagu yiri wuxuu cilaaqaadka labada wadan ee dariska ka dhaxayaan bartaa buu yiri muxuu bartaa cilaaqaat dawliya markaasaa lagu yiri xiriirka adiga iyo ilaahay naga dhaxeeyo ma barataa markaasuu maya jaamacadda aad dhigato professorada inii dhiga xiriirka bani aadamka iyo alla ka dhaxeeya ma ka hadlaan maya iyakiiba maba yaqaanaan sarjooga ku kaadshaan buu markaasaa lagu adoo 65 jir aad ku leedahay labada wadan ee dariska xiriirka ka dhaxeeyaan bartaa cilmiga goormaad ku shaqayn baa lagu yiri waxaad la mid tahay baa lagu yiri waagii dowladda Soomaaliya ay jiraysay ayaa nin baa wadanka ka dhoofay oo dibaduhu u dhoofo waxa uu soo loo diray qaybtan la yiraahdo dambi baarista dadka dambiga galay si dambiga looga soo saaray loo baaro farsamadaas marka ayaa koorsiba loo diray wadannada Yurubiyaanka loo diray waxa uu ninkii wadanka ku soo noqday baa la yiri dadkii wada qori hayso wada dhagaroobay oo wada dambiilayaal cilmigiisa ma shaqaynaya cilmigii dambi baaristu soo bartay xamaro mooriyaan haysata ku soo noqday cilmigaasi ma ka shaqaynaya xamar ka shaqayn maayo baa lagu yiri adiguna kaabaad limid tahay baa lagu yiri xiriirka labada wadan ka dhaxeeya goormaad ku shaqayn baa lagu yiri 65 jir baaba tahaybe cimr al-ghalib ki nabigu umada uu sheegay waa 76 inta u dhaxaysa adiguna 60 waa dhaafto 70 baad madaxa la gashay hadee toole cilmiga goormaad ku shaqayn baa lagu yiri haddaad xiriirka adiga iyo ilaahay nii dhaxeeya aanad baran kuwa jaamacadda inii dhigayana xiriirka adiga iyo ilaahay nii dhaxeeya aynan garanaynin وعلي واحد برات وحبك مجرى أما يقول وزيرو خسارة الدنيا خرب على يقول ونحن اللي الزيرو بالله لقصوا عليه وحي وضعنا وسكوه يده بينك سقوا يابن صلاة دي صباح وجماعة دي سقوا ويون وصل نقضي قاعد يجي سقوا وط وحول علماء ها ونلبح يا ونراعي هاي محاكو هلي هذا كان حل يقول ترى هذا ما كسح ويقول لو قفقن ومسلم ومؤمن مجتمع قال أيو كو دحدعي مجتمع وحو دحقلي إلهي قرني وآخره كو حسابتمي وشني النار بأن كورهي وواحد بني آدم كالله أبوري أي بولوغرام كوغا بكو جرين با أيو دحقلي لأن يكيبو كمين نقطة مركي هابين كلية لله اللينا جماعات وإله هذا الشينا إلهي قلبي سيوحو قلي إيمان درين باكو داشي مركي بحلو والله وارون صلاة قرما يقول دنبايسي oo soo goorma ay ugu dambaysay oo sadaqad goorma ay ugu dambaysay oo cibaado goorma ay ugu dambaysay oo 65 jir baaban ahe waxana baranay culimadu waa baruntooda goorma ku shaqo tagayaaba uu buu yiri waaba waalicas 10 cisho jamaacadii la baxay isagoo ooyaya oo khaarijo fi sabiilillah oo salaadii xifdiday baan magaalada markii damana kuna kaga tago kaga dhoof dadkii inaga horeeyay inaka zamankeenan maanta waxba horumaray baan leenahay laakiin horumarku ma ahan birahan hadlaya iyo birahan guuxaya iyo birahan duulaya maaha horumarku waa qofka bini aadanka qofkaagan bini aadankow noloshaada adduunyadaada intaad nooshahay maxaad u nooshahay balsheeg maska nooshahay xayawaanku waa iska noolaadaan iyo way cunaan way cabaan caanahoogana waa la maala cadkoogana waa la cunaa waana la qashaa bini aadamka u adeegaan iyo adigu ma xoolaa tahay markaa may adu xoola ma tihin adigu bani aadam baa tahay bani aadam ilaahay baa ku karaameeyey ilaahay caqli buu ku siiyey ilaahay cilmina uu ku soo dejiyey oo shariicad diin islaam ilaahay kugu manaystay adiga adu waxaa laga rabaa inaad tiraahdo anu waxaan u noolahay ilaahay adduunka dusheeda inaan ku dul raalli geliyo ayaan u noolahay haddaad adduunka dusheeda ilaahay uu raalli kaa noqdo adduunyada dusheeda waxaad u baahan tahay oo dhan ilaahay baa kuu haya islaam duqa oo waddanka faransiiska u dhalatay oo filosofada laga qoray waxay tidhi waa da'deedu waa 9 jir waxay tidhi lacag sidaan lacag u samayn lahayn baan dadaalkayagii oo dhan ku bixinay tidhi lacagtii waan helay tidhi aqalladii adduunyada ugu quruxda badnaayee ugu qiimo badnaana waan dhisannay laakiin usrad kuma dhaxayna bay tidhi usrad oo macnaha reer ishaysta aabba iyo hooyo iyo ubad isku xidhan oo ishaysta aqalladii aan dhisannay adduunyada ugu qiimaha badnaa kuma haysanay tidhi
waayo dadka caddaanku innagu maanta aan hiigsanayna ee lena kuwaasa horumar gaadhay ilmahoogu hadduu gaadho 18 jir hooyadiina ma yaqaano aabbihiina ma yaqaano gobolka Detroit ee Michigan bari annagoo joogna ayaa nin Soomaaliya oo aad u da'weyn oo dadkii waliba 77kii Soomaaliya ka baxay ahaa ayaa la noogu geeyay guri markaa isagoo jiifo xanuunsan annagoo jamaaca markaa dhowr jinsiyadood baan iskugu jirnaa markaa Soomaali Arab Suuriyiin nala socday Pakistani baan nala socday Afro American baan nala socday waan isla soconay waa ku weecanay markaasaan u ducaynay wuxuu yidhi kaalay buu aqalkan dariskayga waxaa ku nool buri oday duqa oo gaboobay iyo islaam duqa oo gabowday waa laba caddaan oo Maraykan ah waa labadu way xanuunsanayeen waa sankaraad kaalaya iyakana bal u tago salaama buu wax dada aniga u gala buu markaasaan u galay mar alle markay arkeen annagoo u soo galay aqalkii odaygeena halkaas oo jiifaa iyadiina halkaa bay jiiftaa labadoodii baa la soo kiciyey way sad fadhiisteen markaasay farxeen way farxeen markaasay kala bateen odaygii Yuusuf bay ku yidhahdeen Yuusuf intan oo dhan ma wada qoyskaagiibaa bay ku yidhahdeen ila Maraykan dalkaasi habartu waxaa laga yaabaa mar nin caddaana inay la noolaato laba cadcada u dhasho mar mid madow u imanaya laba mid madow bay u dhali mar mid Chinese u imanaya mid Chinese u dhali marka iyagu xagga hooyo walaalkayna xagga aabbo walaalkama marka wuxuu u qaatay intayadan inay islaan kaliya wada dhashay maca Yuusufka markaasuu yidhi may islaamnimo bay ugu soo ziyaarteen buu islaamnimo likawni anni muslim ogaashahay ogaadeen inaan ahay muslim ayay aniga isoo booqdeen buu yidhi wax nasab oo ka dhaxeeya haba yaraatee ma jirtee waxa naga dhaxaysa laa ilaaha illa allah muhammadun rasuulullah markaasay islaantii duqda iska oyday iska barooratay markaasaan ku nidhi maxaad la ooyaysaa bal noo sheeg waxay tidhi master yuusuf adigana diin ahaanba dadkaagu kugu soo ziyaaranayaan oo waxaad leedaha dadkaa kala jinsiyada hooyiyi aabba nimowda dhaline laa ilaaha illa allah muhammadun rasuulullah baan walaala ku nahay annakana labadii u wadeen dhalla yidhahdeen wiiliyo gabadh baa ilaahayna siiyey yidhahdeen maalintii 18 jir gaadheen baa wiilkiina noogu dambaysay inankiina maalintiiba noogu dambaysay yidhahdeen labadooda marka aqalka waxay ku haystaan odayguna ay yar buu qolkaa ku haystaa iyadna ay bay qolkaa ku haysataa hadday dhintaanna cid dhaxlaysa ma jirto dowladda hoose ayaa dhaqaalahooga iyo guryahoogaba ku iibsa $10 marka u dambaysa oo waxaan ka wadaa markaa haweenaydaas waxay tidhi lacag waan samaynay sidaan u samayn karaynaba aqalladii adduunyada ugu qurux badnaana waan dhisannay tidhi laakiin aqalladii usrad kuma haysano nolol usradeed oo ishaysata kuma haysannay tidhi waxay tidhi haddana ashyaadii adduunyada ugu qiimo badnayd waan iibsannay oo aqallada waan dhigannay haddana sacaadadii qalbiga ma haysannay tiro raaxa ma dareemayno daawadii adduunyada ugu qiimo badnaydna dhakhtarradeedii noo yaallin guryaha dhexdooda haddana caafimaad ma hayna bay tidhi jaxiim naartii jaxiiman la odhanayey ayaan adduunka dusheeda annagu lacagteeda ku samaysannay tidhi marka waxaan ka wadaa hadduu bini aadankan hadafku uu ka lumo ilaahay wuxuu yidhi waman acrada can dikrii fa inna lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa ilaahay baa yidhi qofku hadduu ilaahay taacaddiisa ka jeestu dhabarka u jeediyo ilaahay garan waayo nolosha adduunyada intuu ku nool yahay qofkaasi waxa uu ku jirayaa markaa cidhiidhi ka bixi maayo weligii bashar bin alxaarith alxaafi raxmatullaahi calayh aqalkiisa waxaa lagu ciyaari jiray habeenkii alrakhas dumarka iyo ragga intay isku yimaadaan ayay heellada iyo ikhtilaad baa ka dhici jiray saddexyaac nin maalqabeena buu ahaayoo xor ah oo xataa addoommo fara badanna le beriga addoommaa jiri jiray leanna markaa buu irriddaysa soo taagay nin gadh leh oo duub iyo haybaddii islaamku ay ka muuqato bawaabkii albaabka u joogay buu ku yidhi ninka gurigan lama xor baa mise waa addoon isagiina markaa qasriga xagga sar u joogaa halkaa buu markaa ka fiirsanayaa markaasuu ku yidhi ninka gurigan leh ma xor baa mise waa addoon markaasuu ku yidhi maya waa nin xor ah beriga adduunka waxaa jiri jira addoommo iyo dad xor oo axraara meelaha qaarkoodna iminka addoommuhu way jiraan moogta waddannada niger iyo cameroon iyo afrikada iyo dad weli addoommo oo la addoonsadaa jira cameroon beri annagoo ku baxsan magaalada ngun ay yidhahdaan ngun ayaa lanagu yidhi masaajidka boqor baa imanaya maanta boqor haye markaa waad salaamaysiin marka la salaamaya lanagu yidhi kabaha la saaraa
waana la gurguurtaa waa ka dhagaysanay markaa saarta yimaado masaajidkii markaan ku tukanay salaadii jimce ninkii waxaa la keenay fardo lagu ilaalinaya fardooley qaar lugaynayaan qaar farda wataan isagana baabuur marshandiisa lagu wadaa oo la keenay salaadii markii laga baxayna meel geed hoosteeda la fadhiisiyaayo dadka way soo gurguurtaan anagu waxna ma gurguurane aayar intoon iska lugayna baan salaamu calaykum saasaan u salaanay hadiyadna waan siinay markaa cimaamad iyo cadar iyo waxbaan siinay waxaan xasuustaa markaa ninkaasaa lanoo sheego lagu yidhi 4 iyo 6 dumar uu leeyahay hayaal oo 6 galbu ka keenay 4 la gareeyay markaasaa la yidhi wamaa malakat aymaanukum baa waddanka ka shaqayso oo qaryadan miigeyga oo dhan dadka ku nool oo dhan waa addoommo yihiin addoomihiisi weeyaan 4 markaa sharcigu u ogolaayay marka waxaan ka wadaa macnaha adduunka xataa al'aan dhul bay addoommo jiraan xataa Mauritania waa la sheegay marka barigaas addoommo iyo dad xor ah jirayay marka ninkii Bashar al-Xaafi waxa uu yimid markaa ninkan ayaa ilaahay u soo diray iridii aqalkiisu istaagay deedna bawaabkii albaabka u taagnaa buu ku leeyahay ninkan ma xor baa mise waa addoon markaasuu ku yidhi maya waa xor shagaba addoommo leh markaasuu madaxa sidaa u ruuxay bas waa fahmay buu yidhi ilaa waxa aqalkiisa rakhaska daanska loogu ciyaaraayo waa nin xor ah isagii baa markaa dusha ka fiirsanayay hadalka uu lahaa ma maqlayn laakiin ilaahay baa qalbigiisa jilciyey uu soo daadegay ninkii waashmaankii albaabka u joogay buu u yimiday aaway buu yidhi markaa ma aragtana ninkii kula hadlaayey dee uu dhaqaaqo xaggaa buu qabtay muxuu kaa yidhi wuxuu igu yidhi ninkani ma xor baa mise waa addoon dee maxaad ku tidhi dee waxaan ku yidhi ninka aqalkan iskale waa nin xor ah dee muxuu kuugu jawaabay dee wuxuu igu jawaabay waa sababta aqalkiisa rag iyo dumarku ay ugu ciyaarayaan hadalkii baa markaa ninkii qub ku yidhi qalbigiisa wuxuu yidhi bal lastu xorran ana cabdun buu yidhi ma yihi buu yidhi xor ma yihi anuu bal addoon ilaahay baan ahay buu yidhi u ka daba dhaqaaqay halkuu maray halkaabuu maro halkaabuu ka weecday u ka daba tegay raadkiisii buu goray waxaa la yidhi cagaagguu gurigiisii kaga soo baxay kuma noqon ninkaas dakhala almasjid fataaba tawbatan nasuuxa وجلس في حلقات العلم وأصبح عالما زاهدا ربانيا يقتدى به إلى يوم القيامة بشر الحافي بشر كي عقاقنا باللوغو مقعدري عقاق بقوري سكاكا صباح مساجد كو صوغلي توبة كاني توبة النصوحة علماء الله فريسو علمك كبرتي عالم زاهدة وإله علاقة له وإلى يوم القيامة علماء أي تقانو كتبت كقرا المقعيسو أيا إلهينك كدق وكلمة دا كليوكو إصلاح لقى قرقا نسكلم حربة مسوى الضون إنك عندما أنت مجتمعين إيقا مسيدة حرباتين اللي يريد أن الله هاي مسوى حرون الله سيدة اللي يريد الضوم إلهي باتين عبصودا يا كثير من الناس ما توحوا نوليين سي واحد ليد حربات واحد دونتين بكوهنا واحد دونتين بايغا واحد دونتين بعنا واحد دونتين سمايا واحد دونتين داودا ساد دونتين دركا وحده ساد دونتين تمها اجرتا مسلم هدا تهي مسلم معناه ما تفهمينه مسلم معناه waxay ka dhigan tahay المستسلم لامر الله عز وجل وكي أمرك إلهي اسكو ديبي بك دغنتا مسلم كي هوغان سمي مغا كرو شيغنا marka سلمة رضي الله عنها يدي نينكيدي iyo ilmaheegi iyo la ogaaday ko baxayo dhaxda loo galay marka abi salama reerkiisi way kari waayeen سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كرواية لكن ريركي قاع الكيسي أيا دحدي انت استاغين بيكون هذا هذا حداد والتي
oo maxamed uu ku waalay calayhi salaatu wasalaam oo diintii aabbayaasha aad ka baxday oo diinta maxamed uu la yimid aad qaadatay gabadhayada ku raaci maysa noo dhig halkaa noo dhig bay ku yidhahdeen markaasuu u dhigay ilmo yarna way wadataa ee wiil bay u dhashay markaasay ka soo qaadeen reerkii markaa abu salama reerkiisii isaga ayaa maqlay gabadhii iyo ilmihii way kala soo hadheen reerkii gacalkii markaas intay u yimaadeen bay ku yidhahdeen iyakuna gabadhaad leedihiina wiilka anna kale wiilkana siiya ilmihiina meel gooniya loo qaatay abu salamana madiinat almunawar u hijrooday iyadiina meel gooniya lagu xidho meel baa gacanta laga xidho lagu haystaa imsay kala maqnaayeen hal sanay kala maqnaayeen sanad ku dhan sanad ayuu abu salama isaguna madiine joogay uu sidaa un maalin walba dariiqii ay muhaajiriintu ka imanaysay inuu sidaa u eegayey kolba ciddii soo gashaba wuxuu ka waraysanayey islaantiisii iyo ilmihiisii markaasaa lagu yidhahdaa islaantaadiina meel bay ku xidhantao reerkoogiibaa xidhay ilmahaagiina reerkaagiibaa haysta markaasuu bal ninkaas sanad ku dhan sidaa reerkiisa u kala maqan yihiin intuu walwali walbahaar ku seexanaya habeen walba laakiin waxaasoo rafaada iyo cidhidhi maxaa loo marinayey liyaktamila diinuhum inay diintoodu kaamil noqoto ayaa ilaahay sidan ilaahay uga dan leeyahay dowlad islaama ayaa ku dhismaysa tacabka ay diinta u galayaan dowlad nabawiya dowladdii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam tacabkaa iyo tadxiyaadkaa bay dowladdii nebigu ku dhisantay bacda sanad kadib ayaa ilaahay jalla wacalaa nin baa ilaahay soo diray ninkii baa u dacwiyey oo ilmihii uga soo qaaday reerkii iyadiina tolkeed ka soo daayey markaa buu soo kaxeeyey ilaa madiinati almunawara sidaa ku timid ummu salama radia allaahu canha waxay noqotay raasikhaad dumarka iimaankoogii iyo yaqiintoodu qalbiga ay galeen ayay ka mid noqotay markii dambe ee diinta islaamka udubada u taagay markii dambe nebigeennaa guursan doona calayhi salaatu wasalaam abu salama ka dhiman markaasay aad uga murugootay ninkeedii markaa buu nebigu u yimid uu yidhi ummu salamay sabir iyo iimaan allaha kaa siiya buu ka yidhi markaa aad iyadoo u naxsan oo murugsan markuu arkay ayuu nebigu ducadaa buu siiyey ducadee allaahumma ajurnii fii musiibatii wakhlufnii khayran minha ummu salamay ducada akhrisa buu nebigu ku yidhi ilaahu masiibadaa ila soo daristay ajar iyo hawaabna ilaahu adigu iiga qor ninkaygaa meesha uu ka baxayna ilaahu ninka khayr badan halkiisa ii soo geli buu rasuulku ku yidhi markaa bay tihi ducadii nebigu i bare baan akhristay markaasaa laakiin niyadda ka idhi oo ninkaagii ma ninka khayr badan baa adduunka jooga oo lagugu soo bedeli doonaa markaabay istidhi haddana maya ducada nebigaa ku baree nebi maxamed ducadiisa iska akhriso ilaahay baa maaragtaani jiree markay cuddad baxday waxaa soo doonay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo yidhi war ummu salama iigu tego oo iigala soo haasaabo waan guursanayaaye markaabay tihi ummu nebi maxamed baa i raba inuu i guursado aniga mise nebigu nin buu rabaa inuu ii guuriyo markaa buu nebigu yidhi maya waxaad ku tidhaahdaan nebi maxamed baa ku raba inuu ku guursado adiga ducadaa bay akhrisatay ducadee allaahumma ajurnii fii musiibatii wakhlufnii khayran minha ninkana dumarkeennu hay maqlaane in yaroo balaayo hadday nagu dhacda balaayoya qaylay u yeedhanayaan lama qaylyo lama ooyo dharkana layskama jeexjeexo timahana layskama rifo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun baa la yidhaahdaa allaahumma ajurnaa fii musiibatina wabdulnaa khayran minha ducada ku ducaysta ummu salama markii la yidhi nebi maxamed baa ku guursanaya oo isaga dhan baaba ku doonaya ayay tihi nebi allow 3 ceeb baan leeyahay de ma igu galaysaayo ma igu qaadan ceebta koowaad islaam duqaan oo cirradii baa iga soo baxday ceebta labaad bay tidhi adiguna waad reero badan tahay aniguna islaam kulul oo maseer oo hinaaso badan baan ahay ku tidhi ceebta saddexaad waxa weeyaan ilmo agoona ayaan wataaye ilmahaasi muuna adiga culays kuu keenayn markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu jawaabo wuxuu ku yidhi gabowga anigaba uu igu yimiday hinaasuhuna adiga keliya kuguma koobnee dumarkao dhan baa kula qabee laakiin ilaahay waxaa kaaga barya inuu kaa khafiifiyo ilmahaagana arsaaqadoodu aniga ima dul taallee arsaaqadda ilaahay ba haya buu rasuulku ku yidhi yaa haya arsaaqadda ilaahay baa haya dadkii diinta islaamka u hijrooday bay ka mid ahaayeen qoyskaas markaa bay tihi walla ila ducadii waan ka faa'iidaysto
ninkaygi ninka khayr badan baa ilaahay iigu soo bedelay bay tiri waa Muhammad alayhi salaatu wasalaam basharka ilaahay abuuray shakhsigii ugu khayr ka badnaa baa ducadii lagu helay ducadii sunnaha nabiga barakadiisa eega itibaacu sunna baraku leeyahay haddaan nolosheena nabi maxamed kaga dayano nolosheena adduunkan iyo aakhira ilaahay baa inoo barakaynay muslimiintu maanta sunnihii markaan ka dheeraanay nolosheenii barakadii way ka baxday guurkii hadday tahay sunnihii waa kala dheeraanay guurkeennii baraka ma leh awlaadda tarbiyadoodii sunnihii nebiga waa kala dheeraanay awlaaddii baraka ma leh shaqadeennii sunnihii nebiga iyo cilmigii tijaaradda shareecadda waan kala dheeraanay tijaaradii baraka ma leh waxalli wixii nebi maxamed dhaqankiisa lagala dheeraada ay oo dhan barakaduu ilaahay ka qaadaya maa fi baraka cimrigii baraka ma leh awlaaddii way bateen baraka ma leh lacagtii way badatay baraka ma leh wax soo saarkii uu batay baraka ma leh dhakhtaradii way bateen baraka ma leh kuwii wax yaqaanay jaamiciinta sheeganayay way bateen baraka ma leh maa fi baraka baabuurtii way badatay baraka ma leedahay ma leedahay maa fi baraka bajaajtii way badatay maa fi baraka wax dhan xiran dhan baa bajaajta wata dhan xiir miidhan waa kuwa bajaajleeda ijtimaac u qabta maroo ii yeedha kuwa in lagu dadaalo weya waxa ummadda khariba waa kuwaas ee miisiga u daaraya dadka ee rag iyo dumarka isku rasaynaya bajaajtii lacagtuu ka iibsaday hadday xalaal noqoto ficilkan uu samaynaya xaaraan ka dhigaya lacagtii markii ilaahay lagu caasiya waxa xalaasha muxuu noqonayaa sheekh xaaraan buu isku bedelaya maa fi baraka ummu salama radia allaahu canha ducadii nebigeenna ay ka baratay markay akhrisatay way ka faa'iido shakhsigii khalqiga alla abuuray ugu sharafta badnaa ayaa ilaahay ka dhigay zawjkeegu dhabteeda ilahay ku fadhiisiiyey maalik binu diinaar allah u naxariistay abu cabdallah ayaa arkay nin muslima oo sakhraana oo khamri intuu cabbay deedna halkaa dhareerka khamrigu dhinacyada ka daadanayo sakhradiisiina waxay la gashay inuu yidhaahdo allah الله الله أبو شافية عمامديسي انتو سو قادي أيو تغيو مركا درير كيبو كبية مركا وحول مقعي اسم الجلالة مقعي إلهي أفكر وكسو بحايو درير كان إيا خمردا إيا قولن كسو على ما تكبي إيسيدا مركاسو قعنتيسي عمامديسي انتو لتغي أيو كبية يبالي لأنه مركاسو ننكي ليه سخران بانا هي شيخ إسكا كيدا سخران بانا هي يقتك markaa buu sheekhu ku yidhi laa baas markuu ka masaxay yuu iskaga tegey gurigiisuu qabtoo sheekhii habeenkii uu jiifsaday saqdii dhexe markuu isagoo jiifa ayaa manaam waxaa lagu yidhi haatifaa la hadlay haatifku waa dhawaaq odhaah ciddalana aan la arkaynba haatif la yidhaahdaa wuxuu yidhi waxaa lagu yidhi sidaad adiguna dhareerka afkiisa aad uga masaxday adoo xurmaynaya magaca ilaahay afka ka soo baxaya ayaa qalbigiisiina khamriga looga biyo loo dambi dhaafay baa leeyahay saalix min as-sulahaa buu noqday ninkii markii dambe saalix bashiir binu caqraba radiyallaahu canhu ayaa nabigeenna u yimid in dhallinyaro weeyaan oo dhallinyaro ghulaam ah dagaalkii uxud baa laga soo noqday inan kasta oo aabbihii dagaalka uu ku maqnaa aabbihii buu soo dhowaynayaa ciidankii buu yarkaa yar fiiriyey markii laga soo noqday dagaalkii ee meydkii la soo aasay dhaawiciina la soo hooyey aabbihii buu ciidankii ka dhex waayey markaa buu nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam yidhi yaa rasuul allah aabbahay ciidankan uula socdee maxaa ka reeba bal ii sheeg hamuu ku jira hamaan arkaya markaa buu nebigu ka jeestay haddana uu surtaagay rasuulka yaa rasuul allah aabbahay ciidankan uula socdee maxaa ka reebay markaa buu ka jeestay markaasaan iyuu nebigu halkaa intuu i qabto kor ii qaaday buu igu yidhi yaa bashiir maanta laga bilaabaa miyaad raalli ku ahayn in muxamedna uu aabbahayoo kale uu kuu noqdo caaishana hooye ay ku noqoto agoon ma dhacaysid adigu annakaa ku korinayna weeyaan anaa kuu kafaalo qaadaya halkii aabba anigaa kuu jooga caaisha radiyallaahu canha iyaduna halkii hooye ayadaa kuu joogta markaa bashiir carab jabaquu lahaa carab jabaqo saxiix albukhaari buu ku sheegay xadiiska imaam bukhaari raximahullah carab jabaquu lahaa markaa buuri yaa rasuul allah shakhsi mubaaraka ayaa tahee carab jabaqada ilaahay inuu iga qaado ilaahay ii weydii markaa buu nebigu yidhi carabkaaga soo saar
وصو صار مركز النبي كتفي شبقدي با إلهي كفر عرب كيسي صو شبقة ما ترادان هاقو هاقو وشيك شيك مين هذا سمالك وبضع marka uu nabigu madaxa sida ay taabtay buu sidaas halkii ay gacanta nabigu taabatay madaxiisa 80 jir markaan gaarayna waa la eego waxa ay tintiin madow halka tibaha inta kale wada cadaadeen buu marka uu ku oran jiray taabiciintii dadkii saxaabada soo gaaray taabiciin la oran jiray ayuu oran jiray timahaaga bashiiro intan madow maxay ka dhigan tahay oo inta kale waa ka wada cadeen markaa buu oran jiray waa intii nabigu ii taabto gacanta ii saaray weeyaan markuu ii ducaynayay waa taa iska madoobaatay maba cadaanba marka shakhsiga kule yaa rabiica waxaad doonta ii weydiiso waa shakhsi ay garanayaan karaamadiisa mucjizaadkii ka soo baxayo jirkiisa ducadiisa in la aqbalayo ayay garanayaan walaakiin saxaabigaasi nin aakhiruha nin adduunya ma hayne wuxuu yidhi yaa rasuulallah waxaan ku weydiisanayaa inaan jannada kula noqdo rafiiq رفيق معناه ومحي وكمر والبا كولا تاغن هلكا استاغتبا لا يفارقك هدو إلهي لا كل ما ينا ولا الصعدا هدو النبي لا كل ما ينا ولا الصعدا هدو أهل الجنة النبي قابلين ولا الصعدا لأن النبي مجالس بإليهم دتك يكون قابل دون الجنة بحديده الله ينجيه أحمد هذا يا وديار النبي محمد الجنة يكون قابله إن شاء الله ده هذا لكن نبينا هنو كان إن شاء الله ده هذا جون يبون يتايسون هو كان إن شاء الله ده فبس الموضوع كان ليس هما لأن يرى خاصة نبي جاء هو كو عليه الصلاة والسلام أبو درداء يا سلمان قصة مرتبة نيشاقي سلمان فارس بوها رضي الله عنه وحوض مع مركا إنه قرصده أبو درداء يوم مركا والنبي ولا لو كدغو ولا لي أخوة الإسلام أيو كيري أبو درداء يوم ريركا قبل في عام بيلي هنا قبل أرضه يقضون وهجاج مركا دبدو كسويا أقل وين ما هو أقل يروح عريشة أبو درداء بأقل كيسوق له ولا سودوي وقويس مركا يمن كسوق جوري وقبل ونكسن إلى هيسي marka Abu Darda baa yiri waxaan inantiina heblaayaan u socnaa oo ayaad u rabtaa walaalkay Salman al-Farisi baan u rabaa marka way yiraahdeen Salman inanteeda siin mayne laakiin adiga ku siinay ku yiraahdeen gabadha waligeedii mar hadduu ku yiraahdo waan ku siiyay ogow khalaas waxaaskaagii laana waa saddexda nabigu yiri saddex kaftankooguna waa dhabtooduna waa dhab islaanay waan ku furay kaftan ma gasho way furantay khalaas nabiga ku salliya inantaydii waan ku siiyayna kaftan ma gasho waa sidaad u siisay khalaas والعياذ بالله دينته waa ka baxay qofka hadduu yirahdana waa ka baxay ogow والعياذ بالله marka Abu Darda uu yaabay gabadhii khalaas isaga la siiyay sidoo ugu sheegay walaalkii saaxiibkii Salman uuna sugayaa Salman oo isna aroos isku diyaariyay arooskooguna bariga maba adkayna gabadha intoo la siiyo ayaa isla markaaba saxaabiga aqal yar loo tartiibinayay habeenkaaba uu aqal galay waxayna lacagaha iyo daaraha iyo tumashada iyo hoteelada iyo buuraha la iskala dhacay ma ee macsiyada lagu dhisay maaha nabiyullaahi Muhammad alayhi salaatu wasalaam inantiisa Faatima markuu cali uu dhisayay ayagoo masjidka ka soo wada baxo isgarab socdo nabigu ku yiri cali ka waran Faatima hadaan ku dhiso markaa uu sii jeesto uu ka xishooday Faatima waan ku siiyay buu aroosna waa taysa soo diyaari buu ka yiri oo socday inantiisii buu nabigu u tagay Faatima aabo waan ku dhisay yaadii dhistay cali baan ku dhisay radiyallahu anha way aamusta way xishootay markaa bay hadasho aaba ma hadal buu ka yiri علي بعدين دستها علي ويرعى البورين هاي هبنود نوليه هبينك عندها آد وحوجما أركبه كتري مركب النبي يقول فاطمة لقد زوجتك
وإنه لأقدم أمتي سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما بكير فاطمة إنك أنكو قريي وأنك إسلام نمض أمدد أغسهر إسلامي وأنا إنك أمدد أغو علم بدن وأنا إنك أمدد أغو دلقات بدن برسول كوري بركنتانا قادو قديفتانا قادو ويل كان نبيها كل عن صدى عاون وكوهين يا ديار قروب وكيد نقول إمك قبلها وحبكم مدرناه حوما كسبنا سوا تبادن صومالي مركي لسه ويل كي خرج كبادن كبحيان نبي يقول إن أنتي سي فاطمة مركو لسه يقول راعي بركين بوسيي جوجل بوسيي ويل بوسيي marka guurkaagu uu fududaa keen zaman kan cadaabka maaha oo fududaa noloshu way fududay guurka hadii la fudaydiyo bay culimadu leeyihiin zinada inay dhalinyaradu ku dhacdo ayaa adkaan hadii guurka la adkeeyo waxa la fududeeyo ogow zinadii baa la fududeeyay marka guurka inaan fudaydina diyaar ma unahay waa sababta kaliya bay culimadu leeyihiin fasaadka kula dagaalami karno guurkana la badiyo in la fudaydiyo walibana سلمان فارسي بنانكو تاغن يحي ولالكي ابو درداء ايو سغيا ابو درداء با سو بخاي marka سلمان بايدي بشاره wuxuu wixii meesha ka dhacay ina kaaga warramo waan ka xishoonaya buudi wara xishoona ii sheeg ma la yeelay mise waa la diiday waniyo gabadha adi waa lagu diiday laakiin ana la isiyo aroosa buudi hada aroosa markaasuu qoslayo wuxuu yiri ka xishoonaya adiga ma hay waa aniga buudi waayo calaf ilaahay adiga uu ku qoray calafkaagii samada lagaaga qoray iyo adigan anuna dhex socday buu ka xishoon adiga ma habud waa aniga ee walaal adigan Allah ku barakeeyo zamankan arinta ma dhici lahayd wala isku rugman laha Soomaa waa adeer dhigtay ayagu waxa la baray waradeere amar ilaahay ba adduunka socda wixii ilaahay qadarin ba adduunka ka dhacay wax kale ka dhici maayo نبينا صلى الله عليه وسلم ضد نوعيه ونبي قد حميدي ضدك الدنيا كنا ردن أي كعود بالإسلام بهين عرفت حتى الدنيا أنت كلا ولا قومي سنة يك لما قومي سنة واي محل لك قومي سنة دولك وقبير مله وبيال مله دولة وين معها وحول دقته قيل لي دولك وصحراء وبدأ يحي قبائل ويسكعنا ضدك النوع عاصا حابل لك قومي سنة فرس يا الروم انت كلا ادوك قومي سنيين جزيره العرب وابا لسكي هيبا هنغو سو قخنا هنو سو تلابنا دد ما هنا ودغاق با لو يقانين دغاقي ددكي نوعاسها ايا نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام الى كسو دخ ساري ددكاس 3 سنه نبيgu markuu dhex joogay dad nuucay noqdeen bay kula tahay أرحم أمتي بأمتي أبا بكر بن نبي أمة دايدة نك أقول نحرست بدن وأبو بكر نك أمة دايدة أمر كإلهي كوكا كان كو أدق وعمر أمة دايدة نك أقول حشوت كبدن وعثمان أمة دايدة نك علمك حق حكور ردستا أقول يقان وعلي أمة دايدة أدي آمين وكجر آمنة آمن كأمة دايدة وأبا عبيدة برسولكم أبو معاوية أبو نبي قالوا أنك أمدد أقول دلقات بدر دلقات أبو در ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء صمدنا مهرين دلكنا مقادن لن أبو در كرر الشيخ بدم رسولكم وأنا قالوا ليش النبي محمد وكرد حلي بدلي وايي سك الصعد ديوتي ما دو زمن كي معاوية نولا شيء نبدله وش كديدي زمن كي عثمان علم الحلال وعلم الحرام نك أمد أقوى قوم بنا علم الحلال والحرام ومعاذ بن جبل برسولكم قيس النمو براء بن مالك بن نبي الشيخية خالد بن وليد قيس داخس النمو عبد الرحمن بن عوف شن بغلا أو رؤوسه قشو بدأ عدي أي سارنتهاي أيا كان عستدي الرئي مدينة نجيبي كان أنت يقصيب لي هاي عبد الرحمن عود هذا مي أنت هيك بدل ما كو هيستا كو كلا يمدو أنت كو قاضو أنت هيك بدل ما كو هيستا كو كلا يمدو أنت كو قاضو أنت هيك بدل ما كو هيستا وأنت إنك بدل كو هني ميز بلغيب وكو هني بودي
وانا استمدك قادني وكما والله فقراء مساكين المدينة كنا الله قيبيبو جنب غلو أول عفاف ضاد عفاف مباهتنا فضال بن عبيدك ربيعة بن كعبك أيكو قوير كل يستا وصدح مع المدعوة آنن عنن وجدك قاجة ولد عيان أي دتك أشيغن الباهيد وذي أورنجرين بركة دتك أرجوغان ويدول عدينيين بركة إلهي أرجوغان ويجرين باهي ما بشيغن أيام بعد علم الحديث لكن أقوى لا ينتبه أمد النبي أبو هريرة أيها أفك النبي محمد وحكم الصبح إلا قلبي يسوق حفيده مركب تتكلم عاصر يا صوص عليك ولا تحت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تتكلم الدنيا وقو خيانة بنا وهاي النقدين تتكلم الدنيا وقو أمانة في عام تتكلم الدنيا وقو ظلمك بنا وهاي النقدين تتكلم الدنيا وقو نحرست بدن تتكلم الدنيا وقو بين بنا وهاي النقدين تتكلم الدنيا وقو رشاق بدن تتكلم الدنيا وقو قال لماذا حما تتكلم وقو ديفي عن بين النقدين تتكلم وقو أخلاق حما تتكلم وقو أخلاق ونكسب بين النقدين تتكلم الدنيا وقو فقير سنة تتكلم الدنيا وقو خليص بين النقدين تتكلم الدنيا وقو جهل سنة معي نقدين تتكلم الدنيا وقو علم بدن إلا أن النبي كشف صلى الله عليه وسلم marka haddaan doonayno in dadku inoo hagaagaan inuu dalku inoo hagaago haddaan doonayno waa in dadku waxay ku hagaagi lahayn aan ka shaqeynaa dadku maxay ku hagaagaan dadka laba shay bay ku hagaagaan bay culimadu leeyihiin waa dacwad dadka in xagga ilaahay loogu yeedho masaajida loogu yeedho aakhirada loo jeediyo ilaahay caalamadiisa laga dhaadhiciyo iyo in qofka bini aadamka diinta la baro ad-da'watu wal 'ilm bay culimadu leeyihiin haddaan doonno diintu inay fidana دعوة الصبابة هدان دون دينتو إني دتكينا باقي أي كسي نقطنا وإنه مضى علم الشرع وإن لبرا لماذا أنا ما كلام مارمان دعوة علمك كمان مارمتو علمك دعوة كمان مارم إن شاء الله ده هذا هويني حبشية ومذوبين وحي لها الحنون كان لي هذا الصحدين واتقانا وقلل وحنون كوفق ودعو ميركيسuna uu daboolmo tago miyirkiisu haweenaydaas nabigeena ugu timid sallallahu alayhi wasallam ya rasuulallah inni usra jidadka ayaa ku dhacay jidadka maraduna markaas iga beelahanta ilaahay ii weydiiyay ku tira caafimaad ilaahay caafimaad ii weydiiyay maahin xanuunku madax wareer yar حمد ير وصوحدن مير كدبا قفك دبول ما يوتغيا مانكي سيبا بدل ما يرمنيبا marka uu nabigu sallallahu alayhi wuxuu ku yiri hadaad doonto khiyaar buu nabigu siiyay khiyaar ajiib wuxuu hadaad u adkaysato oo sabirtid jannad heli hadaad doonto inaan ilaahay ku bariyo caafimaad ku siiyana hadaan waa ku ducayn marka uu nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu sida ku yiri ayatan ya rasuulallah bal waan isku noqonay yeerkaadi way soo noqotay marka ayatan ya rasuulallah xanuunka iska daabeetay xanuunka halkiisa hay joogo iska dhaaf isaga xanuunka laakiin miduna aniga iiga ducee meeshaan doona han iskaga dhacee yaanan maradu iga baylah minuu cawradeeda la arkin bay ku tiri haweenkooga iyo raggooga soo isku aragti maaha innaka haweenkeena iyo raggeena isku aragti maaha maanta waa kala duwannahay laanna ummadaasi meel keliya biyaha ka wada cabbeen mashrab keliya biyaha ka wada cabbeen mucallim keliya wada tarbiyadeeyey xanuunka iska daabay ku tiri meeshiisa ha joogo ha iska dhacdhaco haddaan jannaba ku helaya sidaa ku dhaaf isaga laakiin meeshaan doon aan iskaga dhacee yaan cawradayda la arkin nabi allah maradayda iga beelahmin iyadoo miyirkayga uu daboolsoomay waliba qofkaasi hadduu waa markaan salaadba qofka lagu lahayn baa layidhi marka uu soo kaco unbaa qofkaasi inuu tukado shareecaddu ay dhigaysaa wixii markaa iyada jirhkayga soo gaadha dembi ma qabta iyadu innakana maanta gabdhaheenna qaarkood ayagoo maankoogii caqligoogii uu soo jeedo uu shaqaynayo
ayaa laga yaabaa dhar xun intay xidhatay inay ragga hor martay bannaanka marto ama aabbihii baad arkaysaa inantiisa kala raalliya dhar xun inay xidhato isaguna masjidku kugula tukan hadduu doono safka hore dhashiisiina dhinacay socdaan iyo haadkay marayaan warba uma hayaba iyadoo miyirkeegii uu daboolmay oo suuxday oo jidka taallo marada ka baylahmaysa iyo aragga cawradeeda raggu ay arkayaan ayay ka baqaysaa ee ka xishoonaysaa markaasay nebiga ku leedahay ii ducee yaa rasuul allah in maradu iga dhaqaaqin maradaydu bas uu duceeyey nebigu sal alla alay wasalam meel kastay ku dhici jirtay maraduna kama qaadma jirin baa la yidhi ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ilaahay raalliha ka noqday cabdillaahi ibnu cabbaase waa khilaafadii cuhmaan binu cafaan buu cabdillaahi soo gaadhay isagoo indhabeeloo da'weynaaday bal weliba uu ka dembeeyaan u malaynayaa ayaa waxaa dhacday inuu taabiciinta ku yidhaahdo cataa ibnu abi rabaax oo ardaygiisa ahaa haweenay ahlujanna ma ku tusaa islaantaa madow halkaa duqdaa madow maad arkaysa haa waa ahluljanna say jannada ku mutaystana uu sheegay markaas marka adduunka dusheeda walaalayaal dhibaatada inagu soo gaadha waan u adkaysanaynaa faqriga waan u adkaysanaynaa nicmadda ilaahayna siiyana ilaahay baan ugu mahadinaynaa mu'minku labadaa midun waa inuu ka dhexeeyaa bayna shaakirin wa saabirin hadduu qani yahoo loo nicmeeyeyna waa inuu noqda qof shaakira shaakirku waa maxay waa qofka sida ilaahay raba uu noolaadee u socdo weeyaan hadduu faqiir noqdo faqri ilaahay kuu qadaraa ama imtixaan iyo ikhtibaar ilaahay kugu rida oo qof baa kaa xanuunsan adigii baa jirin ilmihii baa wax kaasi noqdeen waa la sabraayo waa la adkaystaa mu'minku ma ashkato haddaad aragto qof muslimo oo shahaadanaya oo balaayo isaga ku dhacday dadka mar walba uga sheekaynaya waa qof ilaahay ka cabanaya baa lidhi wuxuu leeyahay nin ilaahay baa dhibtaa igu haya ayaa iga qabto halkee ku dacweeyaa mu'minku ma ashkatoodo shakwada mu'minku ma leh mu'minku sabirkuu leeyahay hadduu qani yahayna waa shaakir hadduu caafimaad la siiyey waa ku shugriyaa caafimaadka haddii arsaaqadda loo waasiciyo arsaaqadda wuu ku shugriyaa haddii nolosha lagu yar cidhiidhiyo lagu adkeeyeyna laanna nolosha adduunka ilaahay isagaa sidaa ugu talagalay dadku inay kala sarreeyaan marka adiga dabaqadda ilaahay uu kugu dhex abuuray diinta uu ku dhex qaada bas ilaahay uu ku raaligeliy madax buu kaa dhigay madaxnimadaadu waa mas-uuliyad ilaahay ku saaray ajarna waad ka helaysaayo haddaad dadaashado ummadda aad talada lagugu dhiibay walow qoyskagaba ha noqdo tolkaaba ha noqdaan degmaba ha laguu dhiibay ama tuulaba ha laguu dhiibay haddaad cadaaladda ilaaliso cadaalad samaysid wixii wanaagana aad ula dadaashid dadka haddaad asiibtana 2 ajar baad leedahay haddaad geftana 1 ajar baa lagu qorayaa baa lagu leeyahay hanigii waa la mid caaqilkii waa la mid islaax daata bayn ajar intee leg baa ilaahay kugu siinaya marka walaalayaal diinteenna macaan ma aha diin ku kooban masjidka keliya bal diin waa diinteen islaamku waa diin nolosheenna oo dhan la doonayo ma aragtana inaan ku maarayno saciid ibn zayd radia allaahu canhu islaam baa ka soo ashkatootay maxay kaga soo ashkatootay dhul aan lahaa ayuu beertiisii ku darsaday tidhi weliba ceelkaana anigaa leh iyadu haddama le ogow isagaa iska leh waa been abuurasho cuhmaan binu cafaan amiirka mu'miniinta u yeedhay saciid waa 10kii jannada loo bishaareeyey nin ka mid a saciid ibna zayd abalacwar markaasuu le waa laga soo dacwooday saciidow wiyaga soo dacwooday islaantaa baa kaa soo dacwootay duqda oo maxay ka soo dacwootay dhul iyadu ay leedahay baad qaadatay ayaa la leeyahay oo macal ceelka iyadaa leh markaasuu yaa amiira almu'miniin anu waxaan ka maqlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh dhul uu lahayn taaka dhul uu lahayn ninka dulmi ku qaata buu nebigu yidhi maalinka qiyaamaha waxaa lagu cuquubayn doonaa 7 dhul intoo silsilad loogu xidho ayaa qoorta loo gelinoo la odhan doonaa jiidoo la kac lamana kici karayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka hayo ka maqlay may kula tahay xaq bini aadan inaan dulmi ku qaadan
ilaahow hadday igu been abuuranaysa buu yidhi indhaha ka qaad haddilin adoo indhaha ka qaada mooyaane halkaana ay sheegaysa ilaahu ku dil buu yidhi dhulkii uga kacay ha qaadatay buu yidhi siiya waa indha beesha dam markaasay odhan jirtay way habaarkii saciid baa igu dhacay way habaarkii saciid bin zayd baa igu dhacay iyadoo indhalo dhulkii ay ku sheegatay isaga wareegayso indhala ayay ceelkii ku dhacday bale ceelkii bay ku dhacday lagamaba soo saarin halkiiba qabrigayga laga dhigo lagu aasay xaqa bini aadanku ciyaar maaha ma anuu nebi maxamed ka maqlay taaka in la egoo dhul xaqa naas ninka gardarro ku qaata toddobada dhul baa qiyaamaha qoorta loo geliyaa oo lagu yidhaahdaa la kacoo jiid lamana kici kara buu nebigulo ma jiidi karaayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka maqlay may kula tahay cuhmaanow inaan dhul bini aadan aan xaqdarro kaga qaadan ilaahu hadday igu been abuuranaysay buuhi indhahana ka qaad halkaan ilaahu ku dil buu yidhi waxaase waa alla ka baq waxa bini aadanka xaqooga kaa joojinaya waa maxay waa alla ka baq markaad ilaahay ku xisaabtamaysa inuu ku arkaayo uu ku maqlaayo aakhara inay jirtana ay ku hor taallo xaq bini aadan inaad u badhaadhaa ku dhiiran maysid laakiin goormuu qofka bini aadanku ilaahayna uu dulmi ka galaa bini aadankana uu dulmi ka galaa waa markuu ilaahay iloobo aakhiradana uu khadka ka saaro saa darteed walaalayaal ilaahayna hanu soo noqonno ha toobadkeenno in yar baan adduunyada jooganaa in yar wamaa tadri nafsun maada taksibu gadan wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut berri toole nin walba waxa uu la kulmi doono kama warqabo meesha qabrigaagu noqonuu qabrigaygu noqon kama warqabno marka walaal waa inaan aakhiro ku xisaabtanna aakhiro ma dheero innahum yarawnahu baciidan wanaraahu ilaahay baa sheegay qiyaamuhu ma dheero xaggeenna waa kaa dheer yahay laakiin nidaamka ilaahay marka la fiiriyo arrinta waa dhowdahay bucithu ana wasaacatu ka haatayni labadaa farood buu nebigu isku dherariyey fardaa iyo murdisada iyo fardhaxadaa buu nebigu isku qabtay markaa buu nebigu yidhi anigiyo saacadda qiyaamadu sida labadaa farood ay iskugu xigaan baan iskugu xignaa buu rasuulku yidhi marka ilaahayna hanu soo noqonno ha ka baqna ilaahay quluu laa ilaaha ila allah laa ilaaha illa allah muxammadun rasuulullah gabar saalixada salafu haadihi lumma ka mid ah ayaa ninkeedii oo kala hayay iyay saa u sii eegtay way la hadashay xaggeedu ku socotaa wuxuu yidhi waa noo kala hayaa kasbi baan noo raadinayaa markaa bay ku tiri ittaqi allah fiina aniga dhashayda ilaahay nagaga baq bay ku jiri gaajada adduunyada aniga ubadkaygu waan u adkaysan karaynaa laakiin cadaabka aakhiro u adkaysan kari mayne luqmad xaaraana aqalka iga soo gelin bay ku tiri ciyaalkayga iyo aniga ilaahay nagaga cabso ammaanadaadii baan nahay aniga ilmahaygu gaajada ifka waan u adkaysan karnaa laakiin cadaabka aakhiro u adkaysan kari mayno luqmad xaaraana aqalkaa naga soo gelin bay ku tiri innakana zamankeennan waxay soomaalidu ay maraysaa waxaan ku cuninba waa la cunaay keen iyo gaajada unba xaaraan xaaraan gaajo unba xaaraan wax xaaraan mayo gaajo unba xaaraan dadkaasina waxay marayeen inay yidhaahdaan ilaahay ka baq dhashan iyo aniga ammaanan ku nahay ilaahay baan noo ka dhiibtay uu nagu kaa eeganayaa ilaahay gaajada ifka waan u adkaysan karaynaa laakiin cadaabka aakhiro u adkaysan kari mayne luqmad xaaraana aqalkaa naga soo dhex gelin nin saalixiinta ka mid ah inankiisa markuu la dardaarmayo wuxuu ku lahaa laba weligaa ha iloobin buu ka yidhi labana weligaa ha xasuusan lacallahu luqmaan alxakiim inuu ahaa marartu bikaiirin min alambiyaa buuhi nebiye fara badan ayaan suxbad la soo yeeshay majaalistoodii 8 mas'ale ayaan ka soo faa'iidaystay buuhi ee iga bara inankaygiyow haddaad salaadda aad tukanaysana qalbigaaga ilaali dad haddaad la fadhidana carabkaaga ilaali
cunto haddaad cunaysana calooshaada ilaali aqal dad haddaad gashana indhahaaga ilaali buu ku yidhi haddaad salaad tukanaysid qalbigaaga ilaali oo qalbigaagu yuunan meel kale u jeesane qalbigaagu salaadda dhexdeeda ha ku mashquulo allah caza wajal allahaad hor joogto qalbigaaga ku mashquuli dad haddaad la fadhidana wuxuu ku yidhi carabkaaga ilaalso aqal dad haddaad gashana indhahaaga ilaalso cunto haddaad cunaysana maaragtaane calooshaada ilaalso labana weligaa ha iloobin buu ka yidhi labana ha xasuusan labada uu ku yidhi ha xasuusan waa labadee dadka wanaagga aad u samaysid weligaa ha xasuusan buu ku yidhi dhibaatada adiga ay kuu geystaan ha xasuusan buu ka yidhi ithnaani laa tansaahumaa wa ithnaani laa tadkurhumaa buu ka yidhi laba weligaa ha xasuusan haba hadal qaadinba ixsaanaka ila annaas wa isaa'atuhum ilayka wanaagga dadka aad u samaynaysid weligaa ha xasuusan haddaad ummadda aad wanaag u samaynaysid ilaahay dartii ugu samee haddaad cilmi baraysid ilaahay dartii u bar haddaad u ixsaan samaynaysid ilaahay dartii ugu samee haddaad u shafeecad qaadaysid ilaahay dartii ugu shafeecad qaad haddaad wax dayminaysid ilaahay dartii u daymi waxaad dadka u qabanaysay wanaaga marka u horraysa waa inaad u qabataa alla dartii dhibaatada dadku ay kugu sameeyaanna weligaa xasuusan buu ka yidhi iska ilow waxaad ahaataa saliimu sadri qof qalbigiisu mar walba uu yahay nadiif dadka ixsaankaad u samaynaysid haddaad mar walba aad dadka ka sugta inay abaal kuu celiyaan waxaad noqonaysaa waxaad halis u tahay inaad ku dhacdo mannaan gallad sheegta inaad noqoto aad halis u tahay gallad sheegte gallad sheegtana waayo هو إلهي صدح واكي نبي قولها عليه الصلاة والسلام إلهي مالك قيامها صدح لحظ مايو حقوقنا إلهي دايمون مايو ذنبنا إلهي كداف مايو عذاب كلول أودرنا وإليهين صدح جرب نبي إريدا كعليي أبو ذر الغفاري أيا يدي خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ويهوغين وين خسارة كواسي أييه نبي الله نوشك برقابو نبي قول المنان وكذلك قلت شيكته برسولك يدي قلت شيكته qofka mar walba dadka yiraahdo waxaan ku sameeyay anigu xaban ku qabtay ana magaalada ku soo galiyay midsa kula ya dadka la mid buu ana qof ka dhigay kan ma adarkii buu yiraahdo dadka ana qof ka dhigay buu oo marka hore madameer buu amsadayeen yani kalaam hadal yar oo basiida qofka si dhib yar uga soo baxaya qatarna uu ku galaya qof أنا سمية أنا وحكاد جي أنا ضدك كوكو دري هذا أنا جرين ما بجرتين ماي وأنا ضحاتا مركو أوه رئيس سبع هذا مدة وحقوق بنا سلاح درت وحقوق بنا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا خلاص هو عجيب الله ينسي إخلاص من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه حديث القدس إلهي وكيلها من عمل عملا قفك عمل سمايا دونك دوشيدا عمل كاسو سمايينا انيغا عيد كلا يقول لنا با الهي اي شريك يلي عمل كيسا iyo shirkigiisa qiyaamaha waan uga tagaa ba ilaahay yiri saddexda qof ee ugu horeysa uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ee naarta lagu tuuri doonana waa saddexde waa caalim waa taajir sakhi aha iyo nin mujaahid ahaayo loo maleeyay inuu diin u dhintay صدح عمل هو وين بين لا إيمانيان كانوا مجاهد بوها كانوا وحوها عالم بوها ومضوا علم جبر يقاربوها كانوا وحوها ماركتان الصخيب مالقبين أيها يحوله سوء بحجري صدح دا عمل إلي مادن إلهي هرتي صدح دا عمل بوحة كلنا ماركتان الشرك بكلنا لأن مركز إلهي أرنا يا هذا وادو دمتي واد صور دمتي لكن أنا قدرت وباد صور دمنه إن لقاي هذا هبل وانين دقاليها أيادو صور دمتي وانا اللي يري adiguna qaari baad ahayd quraan akhris fiican ama waacid umada wacdi ayaad ahayd oo dadku ay hadalkiisa dhageystaan wacdiga markaad jeedinaysid umada wax u sheegaysa ama aad wax baraysidna aniga dartay umaad barayne hebel waa nin caynkaas oo umada wax u sheego carab fasiixi ayaa lagu yiraahdaa islahayd kana waxa la oranayaa adiguna nin maalka bixiyaad ahayd oo meel kasto khayr xoolaha waad ku bixinaysay haday masaajid tahay haday madaaris tahay haday ay taam tahay laakiin waxaad u bixinaysay waa hebel waa saxiix lagu yiraahdo saddexdii naasi waa laynii yiri adduunka dusheedii agtayda waxaad ku leedihiin waa naarta ku tuura la oran doonaa xadiiska Abu Hurayra radiyallahu anhu markuu sheegi jiray
وأوي جري وكعي جري ودعي جري ولا كعين جري وأوي جري وكعي جري markay naftu ay ka bixi ay ka baxda halis u gaadho ayuu xadiidka nabiga ka maqlay uu sheegi jiray lillahi wa inuu hada qofka muslim waxa dadka u qaban ilaahay dartii ugu qabo waa inaad ku doontaa amalkaaga aakhiro amalkaaga adduunyada ha ku doonin Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alayhi ayaa lagu yiri manin naas dadi ayayihi noo sheeg markaasuu al ulama dad hadii weydiiseen dad waxa weeyaan waa culimada waa dadka ilaahay cilmigiisa yaqaana waa dadka ilaahay yaqaana aakhirada yaqaana ee shariicada islaamka yaqaana dadkaas u badada markaas lagu yiri famanil muluk kuwa hadii aad dad ku sheegtay hadana boqoraduna ayay yihiin markaas yiri az-zuhad waa dadka zaahidiinta adduunyada ka zaahiday ee adduunyada badbadkayga waxa dulyada waxba aanan u arkayni markaas lagu yiri ma tawaaducana bal noo sheeg tawaaduc muxuu yahay markaas lagu yiri at-takabbur ala al-aghniya dadka hantiilayaasha oo agtaada aan waxba aad u arkin oo agtaada qiimo aan ku yeelan taas tawaaduc leeyahay buu ku yiri markaas lagu yiri faman as-sufaha dadka sufahaduna ay yihiin man gaabka aqliga aan lahayn alladhi yaakulu ad-din bid-dunya wa qofka magac diineed xambaarsan laakiin magaca diineed haddana dadka adduunyo kaga doonay wajigiisa diineed adduunyada uu isticmaalaya kaasa safiha buu fanuhsin dadka haddaan wax u qabanayno haddaan wax u sheegayno haddaan wax barayno haddaan ihsaan u sameeyno haddaan infaaqinayno waxay naga noqonaysaa waa ilaahay dartii waxa kale ku yiri ninkaas inankiisa markuu la dardaarmayay dhibaatada dadku ay adiga kugu sameeyaana ha xasuusan buu kayf waxaad noqotaa qof saliim sadri qalbi fiican noqo qalbigaaga waa inuu ahaada nadiif muuminka qalbigiisu غل iyo xasad iyo buqdi waa inuu ka ahaada saliim waakii nabigu sallallahu xadiis fi sunan nin ahlal janna inagu soo bixi doona nin saxaabada kamida soo galo soo weysaystay saxaabadu ninkii bay fiiriyeen haddana maalin labaad buu nabigu nin ahlal janna inoo soo gali doona isla ninkii baa soo galay haddana maalin saddexaad buu nabigu nin ahlal janna inoo soo gali doona isla ninkii baa soo galay Abdullah ibn Umar ibn Aas radiyallahu anhuma ayaa intuu socday buu ninkii marti u noqday wuxuu aabahay baan isa soo diinay in marti qaad markaasuu marti qaaday aabihiina ismay soo diideen wuxuu rabay kaliya inuu arko bal ninkani acmaasha uu ku mutaystay inuu noqdo ahlal janna ha soo aragtid buu ku yiri ha soo aragtid buu islaha iyagu khayrkay ku kala dayanayeen khayrkay u kala badinayeen khayrkay iskaga dayanayeen inagu laakiin maanta maxaan ku kala dayanaa naga zamankeena dadkii adduunyo u tartamayaan adduunyo u kala badinayaan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ayaa lagu yiri sif lana ad-dunya adduunyada Ali oo bal noo sifee markaasuu ku yiri ma asifuha maxaan igu safeeyaa awwaluha ana wa aakhiruha fana wa halaluha hisab wa haramuha adab kay xan adduunyada ka sheegaa buu yiri awwalkaygu waa ana wa ta'ab ودال بددك ما انت ادويده جوغا ايغا قف walba waa daalan yahay inankii baa daalan oo aabihii baa daalan oo faqiirkii baa daalan oo malqabeenkii baa daalan oo madaxdii baa daalan oo shucuubtii baa daalan oo hooyaa daalan oo inantii baa daalan oo jaamicigii baa daalan oo kii maalka haystaa daalan oo kii faqiirka ahaa baa daalan kii miiga joogaa daalan kii diyaaradaha waday baa daalan awwaluha anabu Ali ibn Abi Talib adduunyada hadaadii weydiiseen awalkaygu waa daal waa tacab waa tacab waa daal ma banasanaysaan war ma la nastaa ma nasanaysid wa aakhiruha fana haka dambeeya dhamaad ama adiga dhiman ama adduunyada ka hor dhaqaaqay halaluha hisaab teeda halal kugu soo gashay hisaab ka dambaysa wa haramuha iqaab teeda xaraan kugu soo gashay wal ciyaadu billaahna waa cuquuba adduunyada dusheedii aakhir waa lagu ciqaabi xaraanteeda man istughniya fiha futin wa man iftaqara fiha hazan buridi adduunka dusheeda ninka ilaahay hanti uu siiyana hantida uu ku fidnoobi xisaab iyo daal iyo rafaad iyo cidhiidhi iyo walwal iyo walbahaar iyo stress iyo walaahow mu ku jiri
كأدوية أنا هيسنا فقير كان نقضينا مروق بكجر سونا مروق منا حسابتي هذه بعد ضوخصي منا ولول كيجيبها هيو هالكان كهل هذا أبو هيا تسلامه الدون كيس كجمع دين أصحاب النبي يقول آخرة ذي ترتميين جنة ذي أكل بدينيين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ما دام النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصدح مع الموضوع اسكوعي تأويري لنا أهل الجنة النوسو قال دونا عبد الله بن عمر وحو رادنا يا ننكني وحو كم تيسجننا ما السبب صدح بين مركو مرتوها وح أعمال الزيادة وإنت يكو أي قبنيين دافس مركو كوايي أيو يري آبهين اسمان سو ديدينه صدح مع الموضوع النبي يقول أهل الجنة نقصو بحي دونا هذا كانوا النوسو قال عمل كهذا أهل الجنة كن نقطي مقام كأت كم متيستبع الربعين كأركي وح أعمال الديراد وأنك هذا دير تاين ما أركبه كله صلاة دينا واشنطة وقت باتوكتا ساعدها الدمان وتر ذا كعدا هبين كنا عبادة بدن كمان موقته صلاة الليل كاغو مبدنو مناجات كاغو مبدنو أخ قرآن أخرس كاغو مبدنو برجع سود هو ما رأيت بودي أنت عاد خير كعاد يدقو أنت عاد يقو أركتهم بانيقو السماء وح كلام السماء يقو كله markuu ka sii jeestay buu u yeedhay kaalay mid baa jirtay buu adiga ka qarsoon oo aan dogeyn waa maxay habeenkii ma seexdo ilaa waxaan seexdaa anoo dadka muslimiinta iska cafiyaan seexday buu qofna calol xuma calooshaan ugu hay salaamatu sadri saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin cibaadadoodu ma badnayn salaadooda soonkoogu ma badnayn laakiin qalbigooga fiicnaa iyaga سلف وحي ورنجرين أبي بكر الصديق رضي الله عنه صحابة رسولك يا أمة النبي محمد صوني صلاة ما هو كل دافع بشيء وقر في قلبه نور قلبه سكون بعي أيوة أبو بكر أمة كل دافع قلوب تودا هاي قلوب نظيفة بركة دباتة دتكو أي كوكو سمعيان حسوسا اسك سامح اسك عفو غزوات كي النبي صلى الله عليه وسلم غزوات كمدة أيا مركو النبي غنائمتي وقيبية صحابة نين أيا يري مركا قسمة دن لقيبية لقمنا عدالة فلن إلهي درتنا لقم جيد قولي هذا الكايا لقول إياه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام روح في صدق نبي سعة صدره قلبه سبلت كيس يباعيس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي هذا الكلام مقلي رمحاتري قسمة دل قيبيي حولها سدن لو قيبيي لقمنا عدالة فلن وعدالة لقما قيبين إلهي وجهك سنة لقما جيد قولي هذا الكاكا ورمين تقول لك يا دنبي ابن مسعود رضي الله عنه والله المقرين النبي كانوا الشيخ بيقولي مرقاب النبي قال عليه الصلاة والسلام نبي وجهك سيبا بدل مي مرقاب النبي صلى الله عليه وسلم وحيري إن لم يعدل الله ورسوله فمن يعدل النبي يري إلهي رسولك هذه عدالة يكو سميني وآيا وعدالة حقوق كإيماني ويدو أياك لو عدالة سمين رسولكم أرجع مرقاب النبي يري أيوة ولالك موسى عليه السلام أنت إكبر بالله لدبي أو صبر برسولكم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ولكن موسى عليه السلام انت اكبر بيقوم جيسو اي دبان او صبري انا قلنا وصبر يا ابو رسولك لمركز سلامة الصدر لبدا ولغا وحو كودا حسوسا لبنا هاي لوبن الهي هاي لوبن دارت اخرن هاي لوبن بوكي الله والدار الآخرة الله وكيكو أبو ريكو جرسيي دارت آخرنا ودارت كل جنوب النقود دون حق ذويا الله وكيكو أبو ري محكو أبو ري معرفة سئل هيكو أبو رتي عبادة سائل هيكو أبو رتي آخرتنا ودارت الضمها إلى هي وكسو جيو الضمها اللي حسابي دون ويا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا
وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا إلهي قرآنك كغورما يا أوليحي إن يوم الفصل كان ميقاتا مالنت بني آدم كلا كل سين دونو الرب قود إلا كل مدونان ومالنت ويوم الفصل ومالنت لك لصاري دونو ويان كيف عناية كيف حمابا لك لصاري مؤمنك يا منافق لك لصاري أهل الجنة أهل النار كان لك لصاري كي وناك سنايا كي حمابا لك لصاري يوم المصير يوم القيامة لبدا ولغا هاي لوبين بوكودي لبدا ولغا هاي لوبين الله كو ابوره هاي لوبين مر والبا حسوسنو وقلبك الهي كو هي هداد مهرadaada joogta ilaahay xasuusnow hadaad aqalkaaga joogta ilaahay xasuusnow hadaad miskiidka joogta ilaahay xasuusnow hadaad cirka joogta ilaahay xasuusnow hadaad dulka joogta ilaahay xasuusnow waliga ilaahay hayloobin laana ilaahay adaa u baahan qalbigaaga inuu ilaahay ka bixin ducadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam ugu badnayd uu ku ducaysanayay maxay ahayd yaa muqallib alqulub thabbit qalbi ala diinik qulubtuna waxay ku jirtaa buu nabigu yiri ilaahay tabaaraka wa taala asaabicdiisa laba usbuuc oo kamid ay ku jirtaa buu nabigu yiri yuqallibuha kayfa yasha sidoo doona ilaahay u qalliba sidoo doona yuqallib marka nabigeena ku ducaysanayo laha ilaaha qulubta bini aadanka gagadinayo qalbigayga ilaahu taacadaada ku sug ilaahu qalbiga macrifada ii fadhiisi فلا ننسى إلهي نما يلوبين يسوق يسوق يلوبين عينك كما يلوبيو خلقك فسواك أوكو أبور أوكو جرسيي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة إلهي نعمتي سواك كهويي تيدا موقتي تانا موقنبا